بدل ولا ما هوران أبو سلام بس كده يسوع صوّله نور لقب دمعنا وحيايه قدرك باك جايه دمعنا وحيايه تدور ولا ما هوران تدور ولا ما هوران تدور ولا ما هوران تدور ولا ما هوران
guddigay kumudilina guddiga kumudilinaysay tirikam hoobalo wele farmaajo kacar meeshaan kacar waxba kumayaal shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaane kaa qaada bashiir boodaaye waa kaa qaaday soo dhawaada dhammaantiin waxaan ujeedaa malyuu rooble nadiifo qaran dhammaan ayaan dhammaantoodi salaamaya soo dhawaada barnaamijka kulligii shaar ku wada dhufta waa idin wada salaamay dhammaantiin warta dhiiga cabdiqaadir maxamed warta dhiiga waduntayda ku duugane ya waa idin salaama dhammaantiin barnaamijka caawa waa barnaamij xasaasi ah shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan maasha allah waxaa kaloo meeshaan rabaa inaan u hambaliyeeyo gudumnida dadkayga ha isku yeelinina keligi taliya no more keligi taliya no more ya kun al-shabaab war adduunyada ilaahay waa nabar iyo naxdin lagu daray al-shabaab waa gacan galna dadkayga waa gacan galay war waxaan leeyahay digtoonaada meesha xakad loo ka salaamaya cabdiweli waa ku salaamaadna in adeer soo dhawow dhammaantiin soo dhawaada caawa waxaa laga hadlayaa shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan maxaan oodan haddaan laba dhagax dhexdood ku jirno keligi taliye shabaab noo heshiyeen maxaa idin dana reer muqdisho maxaa idin dana in maaragtay dakhligii lagu dhisi lahay waddanka lagu dhisi lahay hirshabeelle lagu dhisi lahay galmudug dadka iskale u dhashay canshuurta laga qaado in maaragtay hoteelada lagu jiifo 10,000 qaaqlayaasha qaataan maxaqbaa intaas idinkuga ekaatee bes nabari naxdinay bes enaf waa qaadeen waxaa qaadi kartiin waa qaadeen inta cuni karteen waa cunteen bilahan kale ku darsadana dhaafa si nabada nagu dhaafa waxa kale aan habaleenayaa madaxweynaha galmudug waa soo noqday waxaan leeyahay qorqorow libaax baa tahay dawacaha iskuna haaska dhigin farmaajo haddaa hoos gasho dawaca noqona wallaahi maanta libaaxaa tahay waxaan ka baqaa inaad dawaco noqoto u gooy farmaajiya filinkiisa galmudugaa lagaa sugayaa filan dhammaaday ma rabno inaan tigid u goosano ilaahay waxaan ka barya inaa habargidin ra-iisul wasaare ilaah waa laga dhigin oo abgaa laga dhigin war ummadda kale hala siiyo ma rabno anaga ma rabno kii noqdana karbaash uu diyaar u noqonaa karbaash hadduu farmaajo bixi waayana dowlad cusub hawiyalaan la yidhahan ku dhawaaqeena hawiyalaana lagu dhawaaqa hawiyalaan imaanayso ma fahanta sidaa awgeed waxaan rabaa inaan ikaadi ay soo wicinta inaadeer hay soo wicinin iga qalay iga daayde telefoonka ilma adeerayaalo lambar toos oo Soomaali ma hadli kara bilaash ii soo waca mana hadlaayo ana og lambar toos Soomaali ma hadli karo wargeem hal wada ciyaaro muxuu sheegay cabdimaasika aan dhegeysanay waxay leeyihiin keligaa hadalay sabab anaga keliya wadaniina waa boori ciyaar keliya yaa fiirsana ciyaar qof adiga wuxuu yiri ciyaarta la wada ciyaar fiirsanaysa male
kaalaya banaanka soo istaaga dood gala ma ogola haddaan sugaa soo celasi ma ogola wiilka fiican lama qaban karo nimanka hadda talada jooga fila Soomaaliya waxaa laga kir leeyahay war geemka hala wada ciyaaro waxay leeyihiin kaligaan hadeenay sabab annaga keliya wadaniyiin ah ee waa boori عيار كذا يا في سنة عيار قف كذي سدلا في سنة يسمونه ورد هذا كالية بنانك سوي استاجر دوت قلا ما أقوله هذا التلفزيون ملح بنهاري ما أقوله ويل كتر في البي بي سي وحوير حلوة يصير مدعيناك قادم وحوير سؤال قلب الدقع هنا مدعيناه ويجينا طبعا بنيا كانوا يشجريني كان دايس مركي دمبه من هذا التلين بسجون نقول مركي ولا جالسين كحافظ كذا أي يوم مدعيناها مركز هو يريد هاي وأقولان إنها توم بالمركز مروين بي بي سي إنه حيتها داس أساس لو يدين إن مدعيناه وحاول رئيس كانوا معنا لما له هذا أنا صايع وهو يريد هاي أوكي وأقولان لكن هل مرة ويدينه مرة بس فلو أب ميديا وحاجة ساعتين يعني فلو أب وإيش واحد ينادي سؤال مركي لو يديه اسمه أشياء على القبض يعمل وهذا هل مرة ويدينه سا وهو كانوا يري كاميرا أنا وجهه مدعينه ولا يفوقينه ورمدحوينها أستغى صوت حكم قدرت كأنه هوني معه كي تعجر سنة ماشى فدي كي مقلع يبا مدحوينها كلسونها كوخاولين وصحافة هوني معه سيدي حسن شيخو كلا لسكو كلسون هذا ور حسن شيخو إلهي خيرك جيسي دالي سيدي حسن شيخا يا ها جيسي لو نقضا dadweynaha loo bare heeraa in loo bandhigo war xasan sheekh maxamuud nin gaar ma aragteen soomaaliya weli ma aragteen never ever noolo xasan sheekh noolo sida xasan sheekh ah banaanka loo soo istaag war kan hadda muxuu ii sheegayaa arigu damina nasaawic hurubtaa soomaaliyeed halkay igu leeyihiin inuu soo hor fadhiisto ma keligiis inuu guri isku xiro ورنين كل الدورة شغالة حزب الهيك ورد وهني الدورة شقة في عضان قلينا حزبنا ملك حس خيرية فرماج هذا اسمه حزبينا نو شغال هذا كان حزبينا نو شغال ورمضان يكلم هي ضد كلام سياسيين كها حزبية أخرى ورجستر قرية ninka reesar ku xilka soo noolaa xisbi weyn maalin kasta xul xisbi weyn asaawna oo xisbiga weyn goorma la keenayaa wasaas yaa laga dhuumanaya haday se ku heshii kiraan noo sheegaan warka miimkiisa muxuu ah dadka soo hor fariiso ma iska tago maxay tiri gabadhan waanu wali caado guddigii dooranay hello إيزي وحير يا أنا في ساقة أنا أوكي عذا سيدينا أريد يا نقعشت نكان يا نقعشت أنا ساوي ولا لا سيدنا أنا كلا جيسي الله نقدا ناقها بارلمانك عشورتي أنا دوقاي إلا بعنايا عناها الله يذو كدغا هبر قدر أهاو وأبقال أهاو ومرصد أهاو وهوية أهاو ودارود أهاو ودوفار دش أهاو سيدنا أكتا ما هلسين بارلمانك أسكسو عابنين سنجيد هو يدين وصل الله بارلمانك عدة أوتيوكو يالي فاكين سيدنا أكتا بارلمان نقدا متقاني ناكتا وأنك أنا إيشاك عرب صالحة كشاكي وهلا سناك وهلا كرتكم جرت بارلمانك نايا كبها بارلمانك أنا أكمل أنا ضد كذي دنا أكمل روم بافيعان وماشي كلي أنا بس هو كتير سيد ما نكو جور سام عارض نقدر بكمل هرت يدا الوجود كو نما وعدنا إرد يدا الحار الوجود أنا بارلمان وأن وجدنا وأن وحبك كيني ولا عاد ضد كي وحنا هاي المدحوينا أنت قلت لي كنت بقى كتير هر فريستي مدحوينا قراء سو استاق واحد هذا واخل دمي مدحوينا إنه حتى ده ما آخر كلام بنجح مالك اللي ديبي تذكي وحن أها موشين ككاني الله قعد كاري محاكلة من باجري مواد على الروم بدنا نكتر روم بدنا فكرك مركزين كذا وحدة فكرك وكسور كذا نما مواد هنا دي بدري شد الله قد والله ويرني
askartiisii ilaalinaysaba kabaha lagu duugay ana xildhibaan ahaa markhaanti baan ka ahaa sharci ilaaliyana waa waxa markhaanti ka ahaa anoo xildhibaan ah Soomaalida hadday dambiyada qiran lahayd waxaan aaminsanahay taliya ibsinayno saamahan anigu waan aaminsan waxa markhaanti ka ahaa oo taagnaa in diyaarad dawlad goboleedyada intii la weeraray dawlad goboleed la yiri diyaarad uma duuli karto oo cunaqabatayn state lagu soo rogay oo dumarkii daawooyinka loo dirayay ay umul raaceen oo al-shabaab askar la soo maxaa la dhahaa ay soo dhaawacmeen oo cusbitaal dhex yaala daawo loo geeyay waa ila ismaay daawo ma samaysatay waa ogtan Kenya uga timaada Muqdisho looga qaaday cusbitaaladii ay dadkii ay ugu dhinteen anaga markaanti aan ka ahayn waa fiirsanay oo shacabkii qaylinaya ani markaanti aan ka ahaa sharci dejiyana waxaan markaanti ka ahaa ani waxaan markaantiyaashu sheegaya habeenka yawm al-qiyaama inaan inta raali ka ahay geesiyad ra'iisul wasaare 7 minutes lagu riday ku horaa fiicnaayo maanta bay socon jireen baa 7 daqiiqo waa soo galnay warqad baa waxa taale doorashooyin baa laga hadlayaa cod baa la yiri waa lagu dhiftay ra'iisul wasaare iyo xukuumadda waa dhacay weli aada waxaan markaanti ka siinahay inay xukuumaddii dhacday ay weli shaqeynayso waraaqna loo soo qorayo waxa la baas gareynayaa maaliyadii waxa laga hadlayaa jinsiyad oo waaba dhacday sidee uga hadlayso weli xildhibaan ah ma dhacdo taas waa taaganahay baarlamaanka uu buuxaa walaalayaal haddaan sharci dejinaynahay aniga waxaan ku soo laygu soo doortay ani wallaahi oo bilaahi waxaan xildhibaanada ugu maaragtay jaaniskooda yar yahay inaan soo noqdo laakiin waxaan ogahay war Carab Saalax oo noo soo celiya Carab Saalax oo soo celiya tan kale ma keenaysin soo celiya kuwa hawiye tuura naaga hawiye ee baarlamaan ku jiro sham ayu dadka ugu nolosha xun oo dadkooda baaba'san yihiin oo nolosha ugu xun ku jiro waa hawiye aawan maaragtay naag xildhibaan saan hadli karto ma hadli kartaa naayada naga baxnaayada naagaha matala xaafadeena matala la bixiyo anu taas aaminsana marka qodobka haddaan dastuurkan ilaalinayn aniga mar walba la hadla haddaan baarlamaan ahay oo aan dastuurkan ilaalinayo qodobka 6aad wuxuu leeyahay 4 sano baa leedahay weli aad farqadiisa koowaad iyo tiisa labaad way sii qeexda waxa ma siyaadsan kartid wadanka ma waxa ka jira ani aan siyaadsado ma baxo yaa kursi iga jecel believe me waqti aan ku soo dhumiyay idinka wariga ma haytaan 7 sano aan gudla ka qaylnaa inaan xildhibaan noqdo laakiin ma ahayn xildhibaan kaante waxaan u maleynayay inaan wax bedeli karo aan sharci sameyn karo horta markaa isku sheego walaad waxay soo wacay qodobka 6aad ayaa ii sheegay in aan 4 sano aan ahay hadduu disaster dhaco war disaster ka jira buuya wadanka waxa ka jira walaalayaal ruma la isku sheegaa ninkii la dhigi jiray gudoomiyahaygii waxa lagu riday asaa intuu soo fariistay afdheeridiisa wuxuu yiri waa inaan hadda ka hadalno meesha uu khaldan jawaari was wrong wuu khaldana sababtoo wuxuu yiri waa 2017 baa marayna hadda laga hadlo kulligii Google gareeyo oo fiiri waxa la sidoo uga hadli karaa ila boqortooyada rabnaa inaan si wada fadhinaa rabnaa 2017 anaga kama aanu hadlay waa ogtiin xalima yar oo kaal sima weligiin aragteen doorasho weliga kama aanu hadlay annaga wax kale aan ka hadlaynay iyo sheeko kale 17 baan ka hadlay 18 baan ka hadlay 19 baan ka hadlay 20 waa u jeedeen meel qof walba inuu gabgabiiri maxaa annaga markay istaahilaa wid saafasasla jagada la qabto aniga kursi wax iga jecel male laakiin baarlamaanka hadda joogno waa fashilmanay waxaan ku faraxsanahay inaan isu kalsoonahay inta dhahay waxaan u dhahayaa inuu madaxweynuhu dhaho inagana kuwa naga dambeeyay xildhibaanada naga dambeeyay haday wax qaban waayeen wallahi hadii taariikhdayada la ku diro 4 sano kuwa la soo dooranayo waxay ka bilaabayaan waqtigooda doorasho qof iyo cod ilaahay baan idinku dhaariyay maalin dhaweeyta aan family baa soo salaamay intaan indhaha xirtay ila islaan alxamdulillah rabbil caalamiin dumarka chance badan bay leeyihiin oo indhaha xirtay baan bakaaraan tagay indhaha ii xirnaa war dadkan anima waalan mise dadka waa la isku ciyaaraya nimanka Soomaaliya anigu dumar baan ahay ciyaalka dhimanayaan dalay gabdhaha masaakiinta oo cashuur inta aqoon u sheega bakaara fil Soomaaliya u jirta mataqaan madaxtooyada wallahi waxba ma jirto madaxtooyada baalka kushinaata anta ka soo raacno oo taraaraxa ku imaajirnay jidka wadnaha geed jecel jidka wadnaha iyo bakaara waxa isku jira maybe 5 daqiiqo isku jira ama 10 daqiiqo oo lug lug oo lugayna 10 daqiiqo ma dhamo
معناها ورديقلي waxa ku xigta bakaaraha wardhigley saaranta hadda wardhigley bakaareeba noqoto faan bakaaraha lagu sheegaa wardhigley darbiga wardhigley waayaba faan madaxtooya ka soo lugayna bakaaraha lugaa ku tagay caadi aad salada ada wato dadka barxadda wardhigley degan uma baahna inay halka hor soo raacaan saladeeda dadka soo qaadatay bakaaraha ka soo adeeganayaan yadeeda faan wax ay isku jiraan male wax ay isku jiraan aniga gobolkaan ka imaado lacag ima soo diro muqdisho aniga lacagta islaanta saliidda beegaysa iyo midda baalki samaynaysa aniga xogaha la ii badiyo sababta 10 nin iyo aniga baan ahay dumar ah marka 30% baa hadlaya hadda hal ogaad ay siinay naagta hadal badana idinka gabi casin waaye marka intaan tago fiiri may 30% ga cilmi oo hadlaya raali ah intaan tagay meesha la dhaho bakaaro wallahi oo billahi baa waxa liigu dhahay naamada xildhibaanaysaa u timi hallo bakaaro lagama shaqeeyo oo dawladdan jooga ma maamusho xildhibaan ma geli karee qof iyo codkiyaa loo qabanaya ma shaydaamo aan laga soo shaqeey wallahi runta isku sheegno indhahan xirtay bakaaro wallahi inaan xildhibaan geli karin reerkii aan tagay waa saseen in kaar alla kugu rid maxaa soo raacay ani bajaaja raacay wiilashii askartaydii iyo gaariga aan watay wallahi magaalada dhexdeeda uga imi marka runta ama nabcaada ama jeclaada anaga baarlamaan baan nahay weligeen kama anu wili caado bulproof ma wato dadka baabuurta loo wada ergaasleeda magaalada dhexdeeda macnaha magaalada waa inta dawladda u xiran u baahanta wallahi billahi talaa bakaare iyo fila Soomaali waxba iskuma jirto aniga jecelaha ku dhashay ma aaminsan inay 5 daqiiqo badan u lugay bakaare 5 daqiiqo ma dhama lugta hada qiyaaso meesha hada anigu soo dego tooriyadka tareenka xaafadda tareenku ka dego laba jibaar hatta ma dhamo bakaare ay gurigeen so واجدك والله فيرق جعل برحات ورديقلي maxay u jirtaa barxad wardhigley korkeeda waa madaxtooyo war ilaahay ka baqa xataa 10 daqiiqo iskuma jiraan xataa haddii xataa iska dhahay xataa baawur 10 daqiiqo iskuma jiraan baawur hataa kasoo raacata 10 minuutar ma dhamo bakaaraa lagu sheegaa marka sida awgeed way fashilantay qof iyo codan qabanayna ay leeyihiin dadka cashuurta dadkaas dhiban cashuurtooda cunana ma hadlaayaan dadka u dhashana ma hadlaayaan fiiri waa naagtan ta ka imaatay buntland ka imaatay aawe habri doofaarada ayo hawiye matal aawe habri hawiye aawe habar hawiye maartan hadlees kulli dabada laga wada dubeeyaa kulli gaarsiya habraha hawiye ilaahay oo la gaarsiyo wixii yaqaan habraha hawiye ee baarlamaanka fadhiyo maarta aan dhiig iyo damiirta lahayn gaarsiya mar dambe yaana loo soo dooran habraha hadda meesha cadala waaweyn canda weynayaal ma astaahishina inaan namatashaan nama matali kartaan gabadhaas oo macnaha buntland ka timaana matali kartaba ani tana dhila hana matashaba hawiyo tana idin matali karto kuwa idin dhashay idin ma matali karaan faan runtay ka hadasho wallahi billahi runtay ka hadasho wardhigley wardhigley iyo bakaaro habarta fila wardhigley darbigeeda guriga kule bakaaro lagu uga soo adeeganaysaa faan saladeeda intay qaadato sida awgeed waxaa leeyahay abrahan doofaarada oo caloolaha waaweyn oo hawiye dadka kale waxba igama gelinaysaa dhib ma qabaan kuwa kale dhulkooda waa dhib ma qabaan abrahan doofaarada oo hawiye hana laga buriyo hala buriyo mid walba xabad san afka ka geliya yaa inta san ka raba walba gabadha marka meeshan waxa waaye no life muqdisho no life maxaa cadaab waa cadaab ay ku jiraan dadka muqdisho cadaabtii ku jiraan wallahi jidadku waa laga xirxirtay cashuurtooda wax looguma qabto iskool free ma haystaan caafimaad ma haystaan wallahi dadkaas waa cadaaban yihiin wallahi bilaa dawlad ma rabno anaga dawlad inaan raadsano xaq uma lihin wallahi awiyow dawladda xaq uma lihin السلام عليكم. عليكم السلام. وراشة إيه ورا؟ في عم برنامج توسع وجرتا كدرس. waxaan u soo galay walaashay aan ku weydiiyo kambala jooga Uganda jooga sax dooda marka la qabanayana si wanaagsan oo cilmiyeysan oo wanaagsan ay fashil loo qabtaa walaal adi ani hadda imi baraysid waxa ma ka qayb qaadanay waa ka qayb qaadanaya si fiican aniga igu mashquul marka aniga ra'yigayga hadal ra'yigaygu waxa weeye horta marka horeysa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto Ilaahay dhibka ka dulqaada ma garatay sax
ومرك اللباد دورة شو قفي عضينا دعين وصوماليا كدعين ولا أجيال صح برلمانك الصومالي عدك إنه كفرية مسير كأنه كفرية أنت إلهي كبقان وحنا أكسن وصومالي أكون فرحس قدمت الصومالي أي كنت تاكاد له صح qofka bilaadanka ila 60 sano ololi mayno 60 sano bila dawlad noqon mayno ma garaysaa dadku qofka bilaadanka Soomaalnimo iyo damiirnimo iyo islaamnimo waa inuu qofku ka hadlo صح ra'iisul wasaare ila madaxweyne ila gudoomiye baarlamaan ila ku xigeen yasaa haday inoo meereystaan walaal wax macquul ma aha waa gart inanta Puntland ka soo hadlaysay ee Puntland laga soo doortayna 100% way mahadsan tahay والله runtii ka hadasho kuwa dadkooda rafaadsan yihiin oo silca ku jira saas uma hadli karaan markaas waxay leeyihiin dad ma talnaa ma fahantay mid kale Xasan Sheikh markii oo maartay waqtigiisa dhamaanay dastuurka waxa ku qorneed hadda ku doodaa waxa ku qorneed baarlamaanka waxa bedeli doono baarlamaan qof iyo cada Xasan Sheikh waxa yiri saaxiib waqtigaaga waa dhamaad iska bax hadda kuwana ku doodaa ka waran kuwana kuwii shal lahay waqtigaaga waa dhamaad qof iyo cad ma sameey kartaa hadda waxay leeyihiin qof iyo cad ku soco wala shay mid kale weydiinaya baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed horta ma ummadda Soomaaliyeed bay matalaan mise dawlado kale ummadda Soomaaliyeed ay matalaan ummadda Soomaaliyeed wixii u dana waxa umasha u dana ba inaan ka yarna u dana صح ayay waxaas dhan uma jeedaan lacagtan iyo kursigaan ay rabaan bis hadii labada dhinac baynu ka ololo xagna nimanka balaayada iyo mucjisada inaga ololiyeen xagna dawladda iyo waxaynu dooranay inaga ololayaan waa inkaar waa habaar waa soo habaar maaha wallahi waa habaar hataa ciidamadii nisa iyo shabaabka kala aqoon la ayaa askartii shabaabka lama kala yaqaan sharci dejintiina saanay u dhaqmaysaa soo gabagabay mid kalena walaal waan ku talin lahaa anigu صح ummadda Soomaaliyeed midowga Yurub iyo midowga Afrika iyo midowga kale toona dalka mar ummadda Soomaaliyeed ba dalka Soomaaliya leh صح dhaqan iyo diin iyo culture bay lahaayeen صح diintii iyo culture dib Allah ku noqdo oo dawladii Soomaaliyeed ee 12 sano ee waxaan ka tagtay way duntay صح qabiila na wixii way noqdeen way dunto dawladii way duntay صح feerka hawiyada mid baan oran lahaa ka hadlaysay mid baan oran lahaa ku soco 30 sano idinka daba taagan Soomaali rabtaa ma jirto afka la kaama gooy ku soco ka Puntland u dhashay ka Boqooyi u dhashay ka meel Kismaayo dhashay wax la iska saareen waxay leeyihiin oo nadiif oo wanaagsan samaysteen aad baad u maasantaa waa maqlaysaan hawiyo wiilkaas aad u maasantaa boorayga inta iga gaarsiin iyo madulada inta iga gaarsiin haye khayr baa walaasha aad baa u maasantaa waa u jeedaa wax Soomaaliland waa Soomaali NFD waa Soomaali Djibouti waa Soomaali ma Soomaali sarabta ma aragti maad arag marka Soomaali sarabta ma jirtee awiyo dantaada garo doqonkiyo wallaaniga ay talaayo iikaadi naadeeryaal iikaadi telefoonadii waa qarxi rabaan bes kala jooga nadiifa soo qaban rabay waa maxay kana ay codka iska dami hello lagu maqlaa waa ku jirta barnaamijkii ku jirta codka iska dami hello waa ku jirta sorry wala shaqaalay waad ku mashquulay waad ma ku salaamay hadii dhamaan asxaabtaada kula jirta live kaba mid lamida waxaan ka hadlayaa magaalada Muqdisho ayaan ka hadlayaa shacabka reer Muqdisho aan u hadlayaa ku sax shacabka reer Muqdisho walaalahaya anigu halkaas waa hadda UK baan kala soo hadlaa laakiin reer Djibouti baan ahay صح shacabka reer Muqdisho ilmihii yaraa bila waxbarashada ka yahay ay hooyadii bila dhakhtar ka tahay ciyaalkii bila jaamacad ka yihiin dhakhaatiirtii inta la laayaan inay isweydiideen baan ka hadlayaa dawladdan adduunyada fooqaqa dhaadheer ka dhisanaysa ku soco
waxaan leeyahay reer muqdisho balni way Soomaali way tashatay Soomaali marka dhaqiyada alla markan isku sheegay Soomaaliyeed meel ku tashaday oo nin walba baqaxiisira uu camirtay oo uu shitay wiyo tasha ku soco halo waa ku maqlaa ku soco magaalada muqdisho hawiye iskale madadiila iyo wixii Soomaali صح ayaa muqdisho wada leh صح muqdisho ay Soomaaliya kale u tashatay u tashada wadanka inaga ale caasimadii Soomaaliya weeyi cashuurtiini la lagu qarxinayo cashuurtiini ka dilmantiin ka hadla gabadha reer Puntland hadda ka sii baxsay dishiisa wallahi billahi tallahi waa gabadha inaan ku soo garaaco igu kaliftay intaan baarkin istaago الله هدان أخانا وماشي جوكتا أنت أقول ترى سوى شميلاي كوي وداش أساس ما الله إلا دلاك بقى كمان سال إلالي هوي أو كمان سالالي كسر والله نهايتي كانتي وحبي أشرتي تذكرني مانتا هذه وهذا تايم وهذا ماشي جوكتا أنا رخي على مركها هذه حتى ما أنت جوكتو walaalkaaga xagaa jooga laga yaabo hadii uu maanta inta yiraahdo in la yiraahdo maxaa ka kale adiga lacagta qaado maxaa ka kale adiga Soomaali baabaas yaani waa dad la kala gadanayo oo walaina kala haleeyay ilaahay dhamaantay Soomaali meel kasta joogta isku soo celiyo waxaan ka hadlayaa qoladan Amazon la yiraahdo askarta Amazon la yiraahdo ama Djibouti ku jirto ama Ethiopia ku jirto ama Kenya ku jirto ama Uganda ku jirto صح askartaas lacag waxa qaata too much lacagta bishii askariga ay Amazon u soo dhacda lacag laga sheekar ma lacag $2,200 askariga Soomaaliga ah ee muqdisho u dhashay ee Soomaaliga aan ahayn Kenya ama Uganda sayna $100 baa ku ilaaliyay isagu waardiya isaga ay waardiya waa sax hada kama fahamtay waa fahmay marka dowladda farbadan baa jira halka ka hay wallahi dad fiican oo soo kacay waan ka arkaya hadda live ka ayaan social media ka arkaya oo wadanka ugu halgamayay inkasta oo aan waxa ma qaban karno waxba ma qaynago haddaan ka joogno noo maanta nin baa hadalka ku door loo dhibo in adiga ku dilo waxba kuma aha in adiga lagu soo diro hadii ilaa waxa ka galay ku door qaado leeyahay adiga ku tiliya mutay marka wala shay aad baan maasan tahay halka ka sii wad meeqsi baan kala hayo oo ka baxaya inaan kulay wala isku daba jiraa halka ka sii wad FIFA Somaliland leeyahay toban noocaas FIFA Somaliland leeyahay runta saa u sheegtiin dadkan aan ka helaan faanta dhaqamada oo Soomaali ku waashay Soomaaliyay Soomaaliya uga danta korontada oo salaamayn adeer nolow ay waxa waqtiga naga dhumiyay oo danaheena seejiyay oo wallahi jaamacadaha ugu sareeyay iskoolada ugu sareeyay iyo nolosha ugu sareysa ku nooleen diyaarado telefono xawilaado dabaqyo wax aan nolol naga maqnaadba male wax naga maqnaa waxaan balaayada Soomaalida daba dhigta alla yaabanaan hawiyo wax Soomaalida daba dhiga alla yaabanaan wallahi alla yaabanaan waxa Soomaalida daba dhiga alla yaabanahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جسيدنا وقف سلامي توسع وجرتها كوسع ما شاء الله أدبكو سلامة يا أديك إيو ضمان أمد الصوماليات دل إيو دبد بوائد ود السلامة يا موادنين الصوماليات أو أدو أوه الرئيسو مروا البنات دي رجلنت إيو سيد أمد الصوماليات أي هرو أوسع عن لهيد أغحبين والبوسو قشو وكو تاغيرسن هاي هرمودكينا tahay abwaanadeena qaaliga hore u soco horta dawladan waa gabagabo dawladan waqtigeedu waa dhamaaday dawlad qabyaaladeysan dawlad qabyaalad wax ku dhiibtay dawlad aan Soomaalinimo fiirin farmaajo wuxuu sameeyay qabyaalad inta ehelkiisa oo jagooyinka wada siiyeen way wada qoran yihiin waana la soo gudbin doonaa wadanka waxa wax lagu qaybsado waa 4.5 waa hawiye iyo daarood iyo dir iyo digley milif inta ay beeshiisu ay wax heshay iyo inta qabiilada kala beelahooda ay waxeleen waa la soo dhigi doonaa farmaajan taas qabyaalada asagay ku caddahay nin qabyaalad meesha u fadhiya ayuu ahaa ma aha nin wadani Soomaaliyeed ah uu noo been guuray waana la bartay wuxuu yahay waa qodob farmaajo miiska ayuu saaran yahay ama diblomaasiyadda dibadda ha noqoto
ama gudaha ha noqoto inta beeshiisu ay leedahay beel walba waa inay xisaabtanto inta dowladdan ugu jirta waa inay xisaabiyaan iyo inta farmaajo ugu jirta meeshan waa xamar xisaab xarir dheeri xoogaa la yiri may garatay dowladnimadu waa 4.5 qabiil walba waa inuu helo qabiilka kale wuxuu leeyahay sababtoo ah Soomaaliya way burburtay Soomaaliya sida ay ka dhawaajisay anoo halkan aad iyo aad ka salaamaya xildhibaan Sacdiyo ma sha Allah gobol dhisay Sacdiyo sida aad ka dhawaajisay gabdhaha ayada la mid ah ee xildhibaannimada ku metelaya beesha hawiye ee aan hadli karin ee kursigaas leh ilaasho ku jira kulli kuraasta waa ka wada bedelaynaa adoo miiran gabdhaha geesiyada ah ee u halgamaya dadkooda Soomaalinimana gacan ku raadina Soomaalinima dhinac ku raadinay dhinac waxa ku raadinay dadkaagu inuu dhibaatada ka baxo sababtoo ah dadkaada dhibaato ku jira Muqdisho maalin walba aragto waxa ka dhacaya maalin walba Muqdisho dadkaada cashuurta laga qaataa cid haba yaratee laga yeelaayana malahan dadka ooyhaya ay jiradu hayso ee xaaraanta cunayna ka yeelimayno canshuurta Muqdisho oo maalin walba ninka la leeyahay isheeg magaciisa Cali Daacun Cali Siyaasi $10,000 lagu siihaa ee uu farmaajo leeyahay caay madaxda Muqdisho u dhalatay ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur lacayha ee lacayhayo Xasan Sheekh ee lacayhayo Qayre ee lacayhayo Cali Mahdi ee lacayhayo Sheekh Shariif cid aan ka yeelayna malahan waxaana leenahay sida ugu dhaqsaha badan Banaadir State ha lagu dhawaaqo Banaadir State ha lagu dhawaaqo waa midda koowaad Banaadir State ku dhawaaqa adduunka raaliyo idinkaga yahay meeshan federalism ayaa la qaatay qof walba gobolkiisa asaa u tashaha qof walba gobolkiisa asaa u tashanaa federaalan qaadanay Puntland waxay tiri federaalkaas aan isku wada ogaano qof walba xaafadeeda ha xaaqato xaafadeeda ha nadiifsato maxaa gobolka Banaadir u diiday cashuurteeda loo laqa maalin walba oo daaro loogu gadanaa oo hoteelada dadka looga bixinaa oo dadka u dhasho cashuurta lagu qaadanayna loo baabiinay sheeg marka anagu yeeli mayno farmaajada waqtigiisa waa dhamaaday cid aaminaysana malahan ilaa haddana wuxuu la janjeeraa dacaska ka carar rabaa mardhow waa carar rabaa farmaajo dacaska ayuu ka carar rabaa mardhow ma garatay waxaan u hambaliyaynayaa 14 sano ee ka soo wareegtay sanad guuradii xilliga asaasay dowlad goboleedka Galmudug oo u hambalyeynayno ee ku aadan maalinta Jimcaha sida aan rajeynayo bisha maanta waa 12 bari waa 13 maanta ba 13 mise 12 12 waaye maanta waa 13 14 jimcay ku soo aadaysaa hambalyo ayaan leeyahay dhammaan shacab weynaha reer Galmudug dal iyo dibad meel walba ay joogaan waxaan kaloo halkan hambalyo ugu dirayaa madaxweynaheena Galmudug State Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ee soo degtay maanta Muqdisho yimiday libaax laba maaha madaxweyne Bashir oo salaama maalo farmaajo dhabarjab ayuu wadaa Galmudug quruxdeeda iyo hanaankeeda ayuu ka masayray Galmudug waxa badi isugu dhibow haya farmaajo madaxweyne Qoorqoor intay goor tahay dowlad goboleedyada kugu kalsoon Galmudug aaminsan ayaa lagu dirayaa sida ugu dhaqsaha badan madaxweyne Qoorqoor Galmudug tag Galmudug shirki 15 dhacay sabdiga saasan u wada fiireynaa waxaa la rabaa farmaajo inuu kugu dhabar jabiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku aamintay ummadda reer Galmudug ee ku aamintay ummadda reer Galmudug oo mucaarad iyo maxaafad gacmaha is wada qabsaday farmaajo holac iyo dab iyo isku dir iyo gadaal dadka inuu ka qaniino ayuu farmaajo rabaa Galmudug tag Galmudug waa sharaftayni Galmudug waa quruxdayni Galmudug waa wanaagayni carar inta goor tahay Muqdisho sixriyo kugu akhrinin ka tag Galmudug waxaan rabnaa dowlad goboleedkii Puntland hore u yiri Muqdisho imaamay wuxuu yiri Galmudug ayaan imaanayaa sidoo kale Jubbaland waxay tiri waxaan imaanayaa Galmudug Nasra Abay wallahi naagaha noo fadhiyo baarlamaankan kuwaas oo kuwana dila fiiri gabadha ka timid carabtu waxa ka warawaan carab saalaxa lagu leeyahay ka ragsan maanta hawiye bis maya gabdhaha hawiye ee xildhibaanada adinka bedelaysiin gabdhaha maalin iyo habeen u taagan in dadkaas la badbaadiyo ayaa bedelaya waa gabar ka soo jeeda Puntland gabadheena Sacdiyo waa gabar xildhibaanada Puntland ah sharaf iyo wanaagan u hayna waxa way qofka markuu tiisa daryeelo ayuu to kala ku daraa Puntland ay difaacaysa Muqdisho ay difaacaysa marka ay Puntland difaacdo ayay tii kala ku daraa xaqdarada ka baqatay waagta sheegaysa xaqdarada cunaysa u baqday nafteeda u baqday macna waxay aragtay inay dib naarag laqlaqaysa aragtay ay kuwa laakiin ma dareemayaan ku soo
marka dadka cuqdadaysan ee farmaajo qabyaalada ku difaacayana qabyaalo laguma difaaci karo 4 bilood farmaajo u dhiman dacaskiisuna mar dhow ka carara mar dhow farmaajo waa carara sababtoo ah inta adduun bal fiiri xukuumad dhacday ayuu wuxuu magacaabaya hal ansixiyo batroolka hal ansixiyo maxay ahayd garsoorka hal ansixiyo maxkamadda dastuuriga hal xagee laga ansaxaa xukuumaddu waa dhacday intuu dhulku booba war waxaa lagu leeyahay waqtigii dhamaaday waxaa la magacaabaa safiirro iyo diblomaasiyadda bannaankii dad loo magacaabaa farmaajo asaga ma caadiya mise waa waalan yahay horta ii sheeg see loo magacaabi karaa xukuumad dhacday xukuumad dhacday see wax loo magacaabi karaa yeeli mayno dadka jiran ee meelaha ka wada ooyhaya wujida kuwa ooyhaya hadda waxa kuu soo qorayo cuqdada ay wada hayso midaan habiiba la leeyahay rijaale oo cuqdada ay hayso iyo midaan kaleeto caashucuud la leeyahay cuqdada ay hayso saaxiibayaal meeshan wadnaha iyo wadan istaagina ka baxa caashucuud aa qaraasanta waqtigiina markooda ma iska baxa tigi waa dhamaaday mar dhow dacaskiisoo ka mar dhow ka carara farmaajo madaxweyne ummad isu keeni kara ma aha ummadda ayuu isku dirayaa adduunkana wuu u jeedaa nin dulmilow ah dulmi ayuu meesha u yimiday wadanina ma ahan waa qabyaaladiiste hana dhaafo heesta ay sameeyeen ii sheeg waayaha cusub maxay ahayd heestii magaceeda نورينا نحن نعناع بدنا heestaas inaad u daarto waaye habbaxaano annaga qof shakhsiya oo ummadda Soomaaliyeed ku xadgudbaya yeeli mayno walaalkay hadduu yahay ummadda Soomaaliyeed ku xadgudbaya waa inaan ka qaban karo farmaajo rabaa waqti qof walba qoris ku diiwaan ku jirna waxay rabaan qalab tiiriya because ayagu sidbur subiyay waxba u qabta ayaga ma garatay ali daacuun marna mushaar la siiyaa oo annaga nacaya ma kiyeeleyna marka waxaan ku leeyahay isku soo wada doodoob galmudug waxaan rabnaa shirkii 15 la sugaayay diyaaran u nahay haddaan nahay reer galmudug qurba joogtii kulligan sacabkan wada garaaco hayna madaxweyne qorqor farmaajo galmudug quruxdeeda ma rabo inuu dhabarka kala jabiyo rabaa galmudug wuxuu rabaa beelaha inuu isku wada diro madaxweyne qorqor adaa mucaarad iyo muxaafid ba gacanta isu wada gelisay abaalan ku haynaa madaxweyne qorqorow hadalkeena ku soo gaara in sida ugu dhaqsaha badan galmudug aad horumarkeeda iyo wanaageeda saad shil ugu shaqeynaysay maantana aad ugu shaqeysid birina aad ugu shaqeysid farmaajo ha aaminin farmaajo waa kii qayra dhabarka ka toogtay cid oo isxaan falaayo malahan ka carara waa bahal farmaajo waxaan ku leeyahay inta cuqdadaysana balooga saar adoo meesha fadhisa riix magacooda waa saari karaa baloog waxaan rabaa inay ilxumo dhintaan rabaa waa saari karaa cuqdo u dhintaan cuqdaha u dhintaan because nin ummadda Soomaaliyeed ku wada shubaya oo ummadda dadku shubaya ay ii difaacayaan anigu ninka farmaajo inaad erkaya waxaan dhihi lahaa waqtigaaga markoo dhan irinta ka bax naagta qabiil ku difaacaysa sheemayu alla sheemayu annaga muqdisho daaradheer يا رير مقدشو دار طبقنا دار دستان رير مقدشو هوتيلada ugu caansan ay ka dhistaan muqdisho wax walba jidadkeena hadda la dhisaya waliba degmo walbana horumar ayaa laga sameeynaya waxaan ku leeyahay annaga qalan iyo xaashaa wadanaa no more reer muqdisho inay qore haystaan no more marka ciidamada oo tuuganimada oo kusoo gelinayana qore xataa maridi karaan oo asaga haysto oo isleey dadkan ku caburi meeshan xoog military laguma qabsan karo xoog military lama jiro farmaajo maqal reer muqdisho qalan iyo xaashaa wataan mar walbana bees kaas haba gabadha dagaal waxba laga qaadi ma fahant hora laga qaadi dagaal ma rabno anagu waxaan rabnaa qalan iyo xaashaa wadanaa wax walba bees caalamka loo gudbino haya talaabo walba oo qalad oo farmaajo qaadayo bees caalamka loo gudbino haya ma garatay farmaajana waqtigiisa Febraayo ku ayaa 2021 musharaxiintii waqtigaas waa wada taagan yihiin farmaajana مع السلامة اللي يرادو مدحوينه مالتاسا ugu dambaysa madaxweyne dambe uma dhimna 4 bilood dhiman ra'iisul wasaaraha iyo waxbana iri hadda ra'iisul wasaaraha wax walba ku ansixino hayahay ra'iisul wasaaraha cusub uu waasho hayo kan hadda oo dhacay ra'iisul wasaaraha waa dhacay oo wasiiradu waa dhaceen hadda kuwan oo haystay ra'iisul wasaaraha intaas oo laba week ka badan oo ugu dhacdayha kan hawsha dhameystiro haskasta kan ha kan haskasta ha kan galmudug ha tago oo hadda ku ah ra'iisul wasaare ku xigeenka ah galmudug ha tago wixii la ansixiyay qayra markuu dhacay oo iscasilay wixii la ansixiyay ma sharci shaqeynaya ma aha madaxweynaha imaad doonana baabiinayo man u sacaysa farmaajo wixii oo boobka oo hadda ku saxiixday
wax sucaaya ma aha wax shaqaynayana ma aha wax sharciyana ma aha aqoon-yahanadana waa kasoo horjeesteen beesha caalamkana waa loo sheegay sad bursiga ha joojiye farmaajo inta uu soo liqay ya intaasoo hadda soo war wax xasan sheekh laga diiday qoslaaye ninkii maaragtay dadka saas u dhex fariisanayay dood wadaagga istaagnaay weligiis dad dhihin kii macaarasa hala dila dhihin oo sharafta lahay alle wixii laga diiday dictatorigan al-shabaabkii ayaga la kala aqoon maa laga yeelaa no ma laga yeelaa cid kaa yeelaysa mala saa boobka oo farmaajo wado boobka ha joojiye farmaajo wadankan asaa kitaabka qur-aanka ugu dhaartay asaa madaxweyne ka ah fahad yaasin lama haysto maxamed mursal lama haysto nuuday lama haysto xildhibaan lama haysto asagaa wadanka u dhaartay dastuurka asaa ilaalinaya dastuurka qabiil qoraalkan asaa ilaalinaya xadgudub walba oo asaga soo biyo wadankaas wixii ku dhaca asaa ka mas-uula qof kaloo loo haysta mala wadankee madaxweyne ah asaga waa wixii xumaan dhaca asaga le waa iskale asaga wixii dhacaya iskale asaga wixii la suubeeya iskale asaga hadduu run sheega dhibaatada dhacaysa u jeedaa wuxuu isu casili waaye oo uu dhihi waaye maxaa mili kari hataa qof uu casila maaragta weliga maaragta waxuu casilaa male waxuu casilaa marka naagtan xidigta hirshabelle u qoran tahay oo dhiladaana ka xir meesha dhilada qaraar ahaaye hirshabelle inoo soo qaaday waa been mujada waa naag qaraar hoo haaye iyo ciil iyo cugdad taas waa balooga xidigta hirshabelle ma bahana hirshabelle waa gudaysa balooga qaad taas baloogteeda si magacyadana intay soo qaataan inagu caayahayaan mayda iskale siilka zeena waxaa kala gala siilka zeena maadaa iskale walaalawas bal ma aragtaa siilkaaga wax ku goosata siilka zeena waxaa ku daba dhig ku soco bal ma aragtaa seena waa gabar sharaf lama seena bay gaartaa urtada marka waxaa la isku haystaa farmaajo waa lala xisaabtamaa saas lagu sii daymaa annaga waxaan rabnaa inta qalad iyo inta lacag iyo inta wax walbaba xamar xisaabaa la yidhi waa lala xisaabtamaa farmaajo haradheero xoog meeshaan taalla xisaabaa taalla meeshaan muqdishaa la yidhaahdaa waa lala xisaabtamayaa saas lagu sii daymaa farmaajo waa in wax walba asoo xisaabiye laga xisaabsado waa qodobka kale waxa waaye in farmaajo ou ogaado 4 bilaa u dhiman may fahantay 4 bilaa u dhiman January meeqa ka dhiman December November September October iyo November iyo December 3 bil mu taqaana ya ugu dar January 4 bilooda u dhiman may garatay 4 biloodna waxa waaye inta oo wax saxiixay oo haddeertaan markuu qayri is casilay wixii oo wax saxiixay iyo wixii oo yiri xukuumadda hal hor dhigo xukuumadda waa dhacday wasiiradu waa dhaceen hunguriga weynada farmaajo hunguriga iska yareeyo farmaajo waa nin waqtigiisa oo dhamaaday xukuumad waqtigeeda dhamaatay uu leeyahay in saxiixa beesha caalamkan waa loo sheegaa tallaabo walba oo qaado gabadha Sacdiyeeda hadday sheegtay xildhibaanada Sacdiye ee Puntland waa idinka hadlaysay waxay tiri xukuumad dhacday ya say wax u ansixinay bal hunguriga arag wal ka waran la yeeli karaa taas war sharciga waa ku tuntaana ku dhaa sharciga eber sharci laakiin anaga waxa ilaa hadda waxaan diideynaa in la dhaho daaradnima loo bursado anaga diideynaa waqtigiisa ha dhamaysto daarood sharafou leeyahay anaga farmaajana qiyaamo haya farmaaja dadka xabadaha isugu dhiibo haya daaroodna isxaan uma gelin kan hadduu hawiyahay wallahi hadduu hawiyahay hadda hala bixiyaa dhila hadduu hawiyahay waqtigiisa oo dhamaysana dhila Puntland dhibka u geysto waad ogtahay Jubbaland dhibaatada iyo cunaqabataynta oo saaray waad ogtahay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif diyaaradaha ay ugu socdeen Jubbaland axmed madoobe inuu ka joojiyo waad ogtahay hadda qayra markuu galmudug kasoo dhoofay diyaaradda ka xayir waad ogtahay marka ninka caadi ma bahna maskaxdu ku jiran yahay kiniyaal oo qaataa farmaajo masaas caadi ku leeyahay wal xaasidnimo heero ka gaaray war xuquuqul insaanka xataa waa ku tumana nin bani aadan ninkaas ilaan kugu dhaarshay waa nin caadi aan ahayn ninkan wuxuu u baahan yahay in la soo daaweeyo waa jiraya waa nagu khalday waa nagu siray mi garatay marka xabiibti walaalaha kale si waa mahadsan tahay waa kuu soo laaban doonaa haye geesiyada ayatana maanta dawladii al-shabaab yaa kala yaqaan dawlad mar hore sheeg ololka baxahayo howradahanaka shacabki argagixisya harxahaaweba haafjaray oo maantay al-shabaab yaaska hartan la kala goormaan tiriye dowladii loo igmaday wadahanka ayaga kamida
sharci dejintii iyo fulihinta ayaga kamida ammaanka kuwan oo ilaahasha ayaga kamida abaabulayaha shaqalaha ayaga kamida ardaydinaga lahayayo aabbayaha shidilay aqoonyahankii odahayaashii beerka dhigay isirtirtirinay wadahan waa la wada arkaa hawiye waarsadowgona malaga marka barnaamijka waxaa tiri almost sanad iyo bar ka hor ma fahante maanta al-shabaab iyo askartaan la kala aqoon ammaanka kuwa noo ilaalsha ayaga kamida sharci dejintiyo fulinta ayaga kamida ma fahante dowladdii loo igmaday waddanka ayaga kamida al-shabaabkay kamid yihiin ma fahante isirtirtir inay wadaan waa la wada arkaa fakin weligiinba maalin boqol markaa naga dishin boqolaas ka dhalanayso dadkaa ma dhamay kartiin ma fahante marka saas sidaa awgeed waxaa leeyahay dadkan maaqa waxaan ku sheego ciddaan waxaan ku sheega maaqaan waxa daba dhigay calankan meydka hawiye meyd sitow dhaka kala keena saan mana anfaceyso inta xildhibaan ee qabtiin sacadiyaa ka karaaman badan sacadiyo bis hana matasho inaad dhahdeen kuwa kale lacagta ka jaratiin haba laydin qaata hawiye oo dhan sacadiyaa mateli kartaba wa maysatiin sacadiyo oo kale no maysatiin marka ani waxaa idin leeyahay saa nolol maahan midda kale aan raba inaan meeshaan ku daro dadka dhahaayo dastuurka waxaa ku qoran baarlamaan cod iyo qof ayaa bedelayo kii shalaba ma ku qorneen markaa imaanayseen fakin oo kuwii hore oo adinkiidi ka horreey markii bedelayseen dastuurka wuu ku qornaay xasan sheekh markuu doorashada qabanaya dastuurka waxaa ku qornaay baarlamaankan waxaa bedelayo baarlamaan qof iyo cod kusoo baxa xasan sheekh maxaa lagu dhahay saaxiib ama qabyo ahaw ama dhammaystir wado waqtigaaga waa dhammaysatay dastuurka soomaaliya waxaa ku qoran inaan waqti lagu darsan karin qodobkaasoo ku baxay adinkana qodobkaasaa ku bixaysiin waxba iimaankaa iska qaadinina sharaftana iska qaadinina haddaad diidiin soo maaha annagu dowlad danba ma noogu jirtaba gurub oo yaa kulahay adinku qaata adinkaa qaadanaysiin ma fahanta habrahan masaakiintana canshuurtooda u nabadgelaysa ma fahanta mid jidadka ka xiranayna ka qaadaa mooryaankoodii usoo noqonaya jidadka u furaa canshuurta ka qaadatido oo asaa ka qaadanaya ma fahanta raaxayna ku soconaya baabuurka ka raacaan bakaaray ay xuduudka kenya ku tagayaan puntland oo gala caasiga ka baxo magaalada muqdisho koostarka ka baxo wuxuu tagaya hargeysuu tagaya nololay haysanaya ma fahanta adi mooryaankoodii usoo noqonaya mooryaankoodii aa jidka u furaayo lacagta adinka qaatiinna ayagaa qaadanaya ma fahanta xornimayna ku nool yihiin qofka qof dil waa la yaqaana baabuur al ayaa dhacay reer hebel isla markaa la sheegaa hebel ninaa la diliyaa dila hebel reer hebelaa dilaa lee hadda maxaa noo haysin anaga waxba nooma haysin waxbarasho waa haysanay telefonna waa haysanay internet wax walba telefonka xamar ka qaatay ani 2003 waa leela yaab South Africa markaan tagay intee ka keentay xamar aan ku haystay xamar telefonka ku isticmaal reer South Africa ma haysan oo wallahi billahi intee ka keentay alle wada dhahay halo السلام عليكم وعليكم انا حسين اوك سلامي توصل ugu jirtaa ku saco waxa kaleysay muqdisho kaleysmo hey horta diyaano waxaan ku sheegayaa walaashay aad adiga iyo horta asxaabtaada aad idin salaamaya salaan kadib waxaan ku sheegayaa horta Soomaaliya marka laga hadlaayo dadna waxa waay waxay matqana u soo shirtageen inay matqana Soomaaliya qasaan dadna waxay rabaan in Soomaaliya ka dhigaan magarad labada kooxood isma keenayaan magarad bay faantaa u maleynayaan waxaan u sheegayaa marka dadka Muqdisho degan Soomaalinimada ku waashay madaxa dardartay war ummad Soomaaliyeed oo afkaala kuma go codkaaga igu go'a codkaaga waa igu go'a Soomaalinimadu dardartay ee dabadii afka ka gashay
ay dilatay oo dubatay ku soco alla ku jeceliya adoo kale ku soco qofka reer muqdisho ka haddii qofka markuu ka imaado maamul goboleed aad tiraahdo muqdisho hadda markii la dhaho maqaamaa loo samaynayaa oo la dhaho maqaamkaa loo samaynayaa dad baa soo ordaya waxay ku dhahayaan muqdisho may maqlaysaa horta mascodka iga gogo'ayo si fiican hadda waxaa taa kaliin ku soco muqdisho waxay ku dhahayaan muqdisho caasimo soomaaliyeed waay waa la wada leeyahay okay muqdisho caasimo soomaaliyeed maxay ku tahay muqdisho caasimo soomaaliyeed waxay ku tahay uma soomaaliyeed jecel israbto oo mataqaanaa soomaalinimada ka wada shaqaynayso haddii la helo okay waxaa rabtaa muqdisho inaad adigoo gobol degan oo tuulo degan inaad muqdisho wax ku qaadatid oo muqdisho waxaa rabtaa caasimo soomaaliyeed okay deegaanka adiga degan tahay aad ku nooshahay soo deegaan soomaaliyeed soomaali okay soomaalinimo ugu ogolo qofka kula joogo qofka kula degan oo kale soomaaliyeed wax maya soomaalinimo uguma ogolo hadda adiga soomaalinimada ugu ogoleen dee muqdisho wax kuma lihid ma garad way faantaa umalaynaya qofka markuu asiga soomaalinimada kala dhacsantahay xaquuqda qofka soomaaliyeed uu xushmeeyo baa waxay caasimada soomaaliyeed xushmeynaysaa xaquuqda caasimad soomaali ahaan bay siinaysaa qof walbo soomaaliyeed laakiin haddii caasimadii aan laga xushmaynin dadkii deegaanada kale laga xushmayn hadda qof walba deegaankiisii buu nabad ka dhigtay waxaan dhahay lahaa muqdisho dadka degan nabad inay ka dhigtaan qof nin walba gurigiisu hagaajistaa maalintii soomaalinimo la helo oo soomaali isku toosan la helo maalinta allaha la gaarsiiyo ma garad si fiican xadiisa wada xadiis warkaaga waxaan ku sheegayaa reer hargeysa waxay arkeen dhibaatada noocaasa oo kala qoqobka oo soomaalinimo u diyaarsaneen marka waxaan dhihi lahaa aniga dadkan hawyaha la dhaho markay shirayaan waxaa ka muuqata shirkooda soomaalinimo ka muuqata mar walba xitaa haddii qabyaaladu shirayaan ayagoo dheer qabyaalad baa u shirayna oo cadaysteen oo shir ree hebel baa u shirayna ayagoo dhahay baa meesha waxaa ka muuqato soomaalinimo iyo jiljilaac iyo wax baa ka muuqata ma garata ani ma garanayo waa saasba hawiyalaan markaad tiraahdo dhulkan dadkaaga wax u qabo dadka soomaaliba hadday imaan ma dhul baa dhismayo ku leeyihin soomaalinimo uf ku soco maalahaas arkaya shir mudlood qabsanaya hadda kor waxaa arkay shir hombeel lagu qabtay oo galmudug oo habargidir qabsanay waxa dhan waxa ka muuqato soomaalinimada oo meesha nin walba calan sutay calamada la kala suto waa calan qabiila brother wax la walaalay wax la dhaho maamul goboleed ma jiro maamul goboleed waa qabiil ma garad calamadan waxa kaliya ka maqan in qabiilka lagu qoro ma ahane calamadan waa qabiil ma garad qof walba markuu mataqaanaa qabiilkaas markaa tagtid oo deegaankiisa tagtid meeshaas maa nooretee ka tahay soomaalinimo laguguma xushmeynaayo haddaa xabsi gashid in tol ahaan iyo qabiilkaada intuu kaa soo daayo oo wax la xiriye ma ahane liintaa xabsiga ku dhex habaysaa waxaa wax ku tihiin qof walba wuxuu soomaaliya ku yahay deegaan wax la dhaho soomaali oo soomaali cad oo maanta calan soomaalida buluug oo la harsanaayo oo caalamka iyo meel walba soomaaliya joogta lagu xushmeynayo ma jiro ma garata nin walba calan marow soo tashay maraduu tashay waa qabiilkiisa inuu ku qorto waaye mataqaanaa in markaas kadib la isku imaado la dhaho war adi maxaa haysaa maxaa igu darsanaysaa maxaa isku darsanaynaa marka dadkan deegaankan koonfurta degan oo hawiya ilaahay horta ugu gargaaray oo dhul wanaagsan buu ilaahay siiyey laakiinse dad waxa waaye markay shirayaan xitaa ayagoo ka tashanayaan ka muuqato meesha waxay ku shireen ma ahan wax kale ka hadlayaan ma garata waxa la yaaba ma fahmino ummadan oo masiirkeedii ka hadlaysa firi caasimadda magaalada muqdisho waxaa la horgeeyay baarlamaanka soomaaliya war baarlamaanka soomaaliyeed ummadan masiirkeed maxaa kaga shaqo magarowe iyo kismaayo iyo dhammaan baydhabo iyo miyaa la horgeeyay baarlamaanka soomaaliyeed lama horgeyn sidaa adiga waxa adiga markaa kasoo tasta waxaad go-aan ka soo qaad kadib baarlamaanka soomaaliyeed wuu ka hadli karaa oo dhihi karaa waxaan waa ka doodi karnaa laakiin maqaamkaadii inaa horgeysa baarlamaanka soomaaliyeed absolutely waa wax qaldan waxa kale kuu sheegayaa magaalada gaalkacyo waa arag waa laba xaafadood ma garad waa magaalo yar marka laba calanaa ka kula sugan waxay ugu kala suganta waa qabiil ma garad nin baa wuxuu dhahay galmudug soo raaci maayo magaalada haddii la fiiriyo waa mudug ma garad
ومدوغا وحين كدهن قبيل كي راعة قبل قبيل كي يقفعن وجيس كودن بيا مدوغ nin saas warka u cadaysta ina wiyaha waxaan u sheegayaa أويو ama ha iska daayaano qabyaaladan ma naqaan ha iska dhahaan ha iska daayaan meelaha ka fadhiistaan ummadan kale malaha noo ahaato ha iska daba kacno ma garata wax cad waaye ma fahmi yaa la qaylin yaa la shirin haddii la shiraayo in warkaada cadayso shir deegaankaada u shir nabad ka dhigo balaayo kasta hadda fiiri afduub haddii la deegaan hawiyo jooga meel kale jooga malaha meelaha ugu badan la qarxiyo waa deegaanada hawiyaha ma garata hadda shirarka u dambeeyay dhacaayay nin qof ka hadlaayo ma arkaysid war deegaankeena sidee u xoreysanaa sidee nabad uga dhignaa sidee annaga maqaamkeena iyo nolosheena u soo ceshanaa ma garata ma ka hadlaayaan ma garata marka walaalay waxaan kuu sheegayaa aniga taas baan kuu sheegaya meesha u soo galay waxaa la rabaa annaga odayaal fiican ma haysane dhalinyarta hawiyaha inay kacaan allahan baarlamaan ma haysatid odayaal ma haysatid xildhibaano ma haysatid wax aa haysatid male maanta haddaa aragtid xildhibaanka somaliland ku matala baarlamaanka soomaaliya isagoo muqdisho lagu doortay haddii somaliland wax laga sheego wuu istaagayaa wuu hadlayaa ma garata kuwa kale oo miisaska korkoraya puntland haddii laga sheego way u korayaan kuwan baas miiska kor istaagaaba kaalfooto kursigaas la isku haysto soomaali ka dhexeeya inay ka hadlaan maahane kama hadlaan maqaan warniyo waxaan la yaabanahay nin dhan oo xildhibaano deegaanka uu matalayay ummaddu matala ummaddu wax ku ahaa ma aan u hadlaynin oo daacad u ahayn haddee waa wareer waay ma garata meesha wax ku noqon hawiyaha waxay mataqaanaa soo baraarugaan siyaasiga hawiya wuxuu soo baraarugaa markay dhibaatada taabato haddaa ka dareemaysa markay dhibaatada taabato wuxuu ku dhahayaa anaa hawiye ma garata anaa hawiye toroba ayay faham waxaas ma shaqaynayso ma garata markay kursiga ku fadhiyaan xilka haystaan waxay xaquuqda deegaankooda dadkooda dudsiyaan ayagoo soomaalinimo ka shaqaynaya ma garata war ayagoo og soomaaliya afar dekedood la saddexda kale qabiilla haystaanoo xabadiina dowlad ku wareejiyeenay ayagoo qaawana xilka dhiibeen balaayo idin qaada xub nafta laydinka marka walaalay aniga waxaan la yaabanaa ninkan dad qabiilka intuu meel soo fadhiista dhahaayo beenta ma fawsay hawiye ayaas bahdile ani cid kale dood ma waastaa cid kale dambi ma haysta aniga dadkayga waxsaan ii galay ku soco qabiilka intuu meel soo fadhiista dhahaya caasimada muqdisho waa la wada leeyahay uma soomaaliyeed haddii la dhaho firi waxay leeyihiin ummad la hadasho oo dhahdo dadka baarlamaanka nugu jira madaxda nooca anaga hogaamiyaasha war haddii la wada leeyahay caasimada soomaaliyeed oo meeshan la wada leeyahay hadda dhulka soomaaliyeed oo dhan in la wada yeesho waayo maya cashuurta hala wada keeno kaliga aad iyo aad dhulka soomaaliyeed waa in la wada yeeshaa waa in cashuurta la keenaa waa in dekedaha iyo eelaboorada waa international lagu wareejiyaa dowladda federaalka wax la wada leeyahay laga dhiga laakiin ninka inta ku imaado ku dhahaya meeshan waa la wada leeyahay laakiin meeshiidan anaa gooni wa hadda waxaygan anaale in adeer waxaagan oo kula leeyahay walaal waxayga anaale waxaagan oo kula leeyahay maxaa iga qaadi kartaa taas hadda waxaa ogolaaday سلامة هذا ما كنت أذوق الإلهي كود دقاوية أذوق هذه بقولكيبا حتى تدوات نيدا ما أنا والله في سوق أنا أدر ليه ما سوق كلام والله وهذا كل سلامة نولو تاسع وحود الله تسو وحود الله تسو حقود الله تصرفان امين هذا في سلامه يا دكتور هاي السلام عليكم ديانا ديانا ويلكان si fiican u hadlo waa ku taageersana ma sha Allah ilaahay qar hasiyo xildhibaanayaasha hadda ka soo qaba dubataatayaasha laga soo doorto maxal lahaa hargeysa ka imaadeen oo xamar joogan oo moogtay waa artay Soomaaliland hadii wax laga sheegay way istaagaan صح واحد جروا وحو شيغا runtiisu waa ku taageersanay run ka dhawaajiye wallahi billahi taala nin wax og ani waa jeclaa dadka wax og oo runta ka dhawaajaan jeclaa maanta runtii taagan tahay waji la qarsada ma jiro ma fahamtay wallahi ninka run uu sheegay fiiri Soomaaliland canshuurna lagama keeno diyaana adan ku sheega nimanka isaaq dekadaas u furan dhulkooda haystaan canshuurtooda qaataan dhulkooda dhistaan kuwa xamar jooga oo dheeftan xamar wax ka cunahaayana
nama matalaan ku dhahan kuwa hargeysa jooga haddii la weydiiyo ma ogido haddana saas ay tahay asoo somaliland lacagna ka qaadanin oo tii canshuurtii muqdisho iyo tii carabahan iyo maaqan united nationka iyo waxay dhiibeen ku nool haddana haddii hargeysa ama somaliland ba afka lagu taabto wuu istaagaa oo dagaalamaa mala socotaa marka dadkaas ka war canshuurtooda farmaajo hadduu cuni lahaa ka war iyo daarood iyo oo hargeysa joogi lahayn oo madaxweynahan ku ahay bubbubu inta la dhahay been loola imaado boqol tahay inay nabad jir lahayn hal habeenay madaxtooyada u geli lahayn farmaajo ciddaasaa ogahay iyo doorka waa fududihaa la lahaaba samaroonka ma fahamtay صح marka diyaana saas waaya meesha nasiib daraa dhacday siyaasi ma jiro wiilkan runtiis waa dhalinyarada inay isku tashato dad siyaasiyiin la helo dadkan moogtahay la dagaalamo dadkan farmaajo la dhahay horta barnaamij wax looguma qaaday ana hadda hor waa ku sheegay siyaad barra adeerkiisa ah iyo cabdullaahi yuusuf wax looguma qaaday barnaamijka waa ogtahay oo nin walbaba meeshan lacag u jooga lacaga la siinaa lacag ay qaadanayaan waa isku dhamaatay gudoomiyaha barnaamijka oo raxweenka hataa $1 million uu siiya farmaajo la dhahay ani sekretadaas maqlay arrintaas marka $1 million nin la siiyo weligiisna iska baahnay oo rafaadsanay oo qaawanaa oo farmaajo wuu ogyahay ninkan lacagaas u joogaa ma ogyahay mursal dan kale kama laha meeshan cadaaladna kuma shaqeeyo mursal sharci kuma shaqeeyo mursal sharci kuma shaqeeyo diyaano ee shilimaadu ku shaqeeyaa farmaajo lacag siiyo lacag uu qaataa kalaab kasiino noqdo baarlamaanka khaniisiin iyo kasiino meesha Allah iyo taxi iyo maxaa galmay waa barabbiyo waa aragtay ninkan meesha sharci ma ka jiro nimankan khaniis iyo balaayo ka sheekeynahayaan shilimaadna waa la kala qaadanahayaa nin kasta ganacsata waay nimankan nin bakaaraha dukaan ku leh iyo mursalkaas gudoomiyaha ah isku mid waa iyo muudday kan la dhahay iyo waxaan dhan meesha lacagaa loo joogaa tuugo waay marka nin kastana waxay u arkahayaan fursad soo martay 40 sano waxay darbeen karaan ay darbeen ay ka taajiraan ay rabaan ma garatay lacagtan xamar laga dhargo iyo tan qadar iyo dubay iyo meelaha laga keenkeenahay iyo maraykanka u dhiibay la qaybsanahaya dadka masaakiinta magacooda lagu cunay Soomaalina shilin lama siinahay ma fahamtay haddana waxay ku sii darsadaan inay ku sii darsadaan ay joogaan nimanka meel uma socdaan dhibaatadan waxay ku hayaan beesha mudulood hiraab ma fahamtay mudulood iyo hiraab iyo hawiyo idil iyo irro dhan ay arrintan taabanaysaa أنا وابك حمها وحي دعي وادعي نكا إلا سي ما بربين بنكا هراء إنه اسكت جوجا والله بينكم الشيء مقالة دي سعيد مقدسة بدكيسي جوجا مدلوك كيسي هراب كيسي هويسك عنده أقوى هستو سومالي واتشكو نمبو والك على السعودية إنه اسكت فديها ربع حسن شاك حسن إنه ديب معهم وافض هذا كالي نكف صداي صومالي كالي نعناي صومالي كالي سورمي صومالي كالي ديانا نوافض هذا حسن شاغ إلهي غيرها سي كل نين ونكسن واي أصلا وحي كتاهي سومالي انت وتنزل انت وحسلا سومالي هاسو ماتو لواتي 8 سنه 30 سنه ميا دغال لوgu jira oo la ismari waaye Soomaali ha asuq imaato tanazul lek inta reer maslaxo ah ninkan iska degano maskiin oo aha laakiin Soomaali maanta nin maskiin uma baahno waxa waaye ninkan inuu iska sii jooga ficnad farmaajo iyo alkuristaha oo kale inuu soo dhiibo ma ahan farmaajo sababtoo xamar wax ka yaal ma lahan wax dadkiisa ma degno deegaan hawiyo waaye deegaan irir Soomaali waaye ninkan in loo dhiibaaba qalad aheedba marka hadda waaba dhacday qalad Cabdullaahi ama Xaras dad ku laayay haddan kadib la hala tashto hadii Ilaahay idmo nin daarood dambe xamar ka talinin Cabdullaahi ma liidr sambulo shabo ka hadlay arrintan واي هرجيسة بس ساقة كتلنا هي سومالي لين مقدشنا وحال ربنا إن هوية إنه كتليو إنه ديبو ما إهم الدهرات دول كيسوا يستبون تلان ما أنت نين هوية ما لو ديبا نين أجيجين أما الججالة ور هلو ديبو واكس أما وعدان أما هلي قبيلة دي حتى حسكو الهوية ما أنت حسكو الهوية أيجا ما إنقلاب يبون تلان ابن جيسنا نين حسكو الهو ديبا بواكسة ميلين وايو نين هوية كسو دي إن إل رمجان مو ديبايان marka ayaga ba hadii adiga ay waxba ku diibanayna adise ugu diibata dadkaaga iyo hantidaada iyo ummadaada se gacanta u gelin nin cadow ah darad wixii laga soo maray waa loogahay maxamed farac ciidid waa soo xarbi waa soo dagaalam ilaahay jannada firdawsa ka waraabiyo waa soo kaadiisu soo cabi in loo daaya ficnad asagtiisa imaatay waa laga hor imaaday dadkan waa la isku diray siyaasadda daarood waxa waa dad isku dir u yaqaana fitnay ka shaqeeyaan balaaya ay weligood ka shaqeyn jireen ciidan hadayse ayaga madaxweyne ay ahayn Soomaali inay burbursanaato dib ku jirtay rabaan hadday saan tahay Soomaali waa lagu kala soconaa Soomaali meeshan waxa waaye ninba dhul u leeyahay sheekh waqtigiisii aad ku baxo maanta reer farmaajo ha joogo farmaajo ma joogay habartiisa iyo la jooga ma habartiisa ma joogta dhaxal adeeg Ismaaciil Xamar siyaad barnamo oo kii Xamar gugubay kii Cabdullaahi Yuusuf ma aho adeerkiis lama aho
oo xamar dudumi oo kaare 20 kun oo tigray ama xaar keensaday hadii ama xaar loo geeyo wallahi boosaasay ku duulayaan wallahi ama xaar hadii dhulkooda nin daarood asgeel lahay wallahi waa lagu duulay hawi waa laga arkay masaakiinimada ay deganaanta iyo miskiinnimadana laga arkay ushiis lagu tuma ishiis laga arkay ushiis lagu tumaa daarood sheekadii u barteen wallahi farmaajo hadii maanta xamar wax ku dhinto ha loo sheego inaan laga haraynin wallahi ilmihiisa la ugaarsanaa wallahi cunugiisa iyo gabar asi oo dhalay waxay dhashaata wala dil doonaa haddii xamar maanta qush ay xabad ka dhacdo haddii kale sinabad ha ku dhiibo meesha dowladda ka jirta edab darro la joogaa xukunka ha iska dhiibo waqtigiisana waa dhamaystay dhuusa mareeb baydhawa 14 ka soo dilay masaakiin nimanka raxweyne masaakiinta ah ayaa jawhar iyo kulli musuq maasuq ka geystay dhuusa mareeb sharcigii asaa jibiyay dastuurkii maanta sharciyan ba hadii la xisaabtamo ninka wallahi inuu madaxweynahan aniga wax badan ogahay ninka madaxweyne ma ilaa ka qoto ku jooga farmaajo waa is ogyahay anina waa ogahay inta Soomaaliya wax ogna waa ogtahay farmaajo madaxweyne ma ahan sharciyan maanta ra'iisul wasaarihina waa tuuray nin iska fiican oo miskiin oo iska aha maanta ninkiina waa tuuray wasiiradii iyo wixii dowladda saasay ku duntay inda adeeg uu la jooga Morgan iyo Cabdi Xoosh iyo warkooda maqlahaaya nimankii adeerkiisa Maxamed Siyaad Barre godka ka tuureen waa la taliyaal xun oo tuuga ah oo dhagar qabayaal ah oo qabiilistayaalna ah Zakariya laftigiisa ku jira gudoomiyaha ninkan baarlamaanka oo Xasan Sheekh naftu keenay Shariif iyo xilligood oo weligiisna daaroodu rabay inuu qabsado maalintii la joojiya bannaan la jiifiya bannaan waa macnaha bal fiir Zakariya hadda waan dhageystan waan yaabanahay haddan ka horna farmaajo taageeraya weligiis Xasan Sheekhna mucaaradu ku ahaan jiray warmaashan waxa shaqo qabiilay gashay dadka wax dawladda dhahmeeshan kama jirto nimankan waa mooriyaan dhulna way naga haystaan waamo dhan koonfur oo dhan gacantooda ku jirta shabeelaha hoos in baydhabo lagu daro in raxweyn iyo hawi qoorta la isu geliyo balaayadan oo dhan ayaga noo keenay ama xaare iyo Kenyana ayaga nagu diray war hawiyow indhaha fura war meeshan dawladda ma ka jirto farmaajo inuu baxo dana noogu jirtaa waa in la isdhaafiyo ku dadaala hadduu ilaahay idmo meeshan sharci inuu sugi jiro waxaad ku ogaan kartiin 4.5 dawladda ku dhisan tahay haddana saas ay tahay canshuur lagama keenay dekada Boosaaso iyo Puntland luubaan ay dhoofiyaan xoolay dhoofiyaan eriga ilaa Itoobiya ogaadeen xoolihiisna laga dhoofiyaa Boosaaso iyo daaroodka xoolahood haye saas ay tahay hatta habargir hadda kor meesha ka dhoofsan jirta hadda hoobiyo intaan hoobiyo hadda laga dhoofiyaa maqlay marka waa inaad saas u ogaatiin kismaayana qoto ku joogaan oo dad Itoobiya ka soo duulay oo shufta la ogyahay tuuga dhul raadis burcad aan ognahay war kismaay anaga ka soo jeednaa 7 oday dabaweeyashay ku dhashan dhulkaas waa mahas هي بيلها قال جعلي عرملي كل قال اسكت إلا بدله دارودة هاي كانت هاي شات دارودة الربين لوجلي سدولك كسمة يلقوا حلاش هذا وروح بدن بالله الصومرة ماشان قبيل في مجرى قبيل بحل حاجنا هاي بنجي اللي جاب سنجرة دارودة قبيل لها ويرها هاي أو دتك كبين شيء هاي أو دتك حاران أي كدقة هاي أو قبيل الذي إرمان دول صار يو شيء إنك كدقة warkan daarad inaha furtiin war aniga isaaqna ma daba socdo raxweyn asma haysano meelahan kala adres asma haysano hawiye waxa cadow idinku ah waa inaad ogaatiin indhaha fura daarood waxa maalin bashaata idin gashana isgagidina ama xarno hoosta ka gala kugu soo hogaaminay oo daba socdo isqarqarinay marna sawaxili kugu daba roore tangiga sawaxiliga hadda Kismaayil joogan war waxaan idinka ma kala garatiin aniga waxaan la yaabay qof oo war qofka ku dharbaaxa ta ma ka siismiya qofku jugku sida wax kugu dhufanaya haddaad ka seenays nasiib darro ma aho war waa inay indhaha furtiin war anaga cadow kale ma lihin xaqiiqadii sheega cadowga daarood waa Soomaali kale isma haysato dadka dalkan ka degi waay qaatibillaah laga joogo idoo Cabdullaahi maxalli jiray ra'iisul wasaarihii hore habargir Cabdullaahi Ciise iyo sharci fiican 1945 45 federaal xalaal ah dalkan ka jiri jiray هي عبد الله عيسى قبرنا سعد هبرجر دولة دودي كذب وحاء ماذا هذا عد نل يجلسنا وجيجنا هذانا وحاء ماذا نل مجرتنا ماذا لا بس أنا اللي جوج نكى هتا أيوكا توكتن وروح ضد إنكارت رسولك قوى عرك إلهك سوري ذا يوم ما قرأت وسياد براء ماذا ملتري فدرال كيو قد كسر بل فيريا فدرال كان لا بس شباب حمر اللي حكم جر شباب الله شباب حدا دق ماذا مبراوي دق ماذا مركو دق ماذا أفجوي حمر واستجان دق ماذا ورشق يجوهر أيضاً دقم لبد دقم أو شباب الله ده يصدق دقم أو شباب الله هوسوا يبنادر أصل هنجتي أي قبيلة ده شباب الله هوس دقم أو هدو إلى يقول وعدان له وضلان له سلع له أو أبقى له مرصد له هبرجر له كل بيمال له أنت أمبا يوم هدو إلى يقول توني قدر كون عاد كبرها ودقن هاتمي يا الله أيضاً لفتوا أصل كود إسبانيش ومركبة ماشى أقول جبل ما ندقل وحكوجي من الدقل قبيل بماها واحد إسبهيسي أول مركب iyo shabeellaha dhexe inta xamar ay wax la qaybsan jireen qabaa'ilada iyo nimankan shacaleemoodka lahaay oo ayaga laftooda qoto ku degay daafeed haddan kor iido
waxaad nin awogeyga ii sheegay gaal jecla lahaan jiray magaalo ma ahan baadiyaha lodooda daaqi jirtay nimankan barsanal lahay iyo culoofiya lahaan jiray nimankan oo ayaga laftigooda meesha iska imaadeen gaal jecla hadda ma la xisgubeen hataa idaacadaha ka arkay oo yaabanahay wadad dhulkooda inta ugu imaadeen bal ilaahay ku dheer ka war yaaq bari weyn ilaa buur zoonaheeda ayay degaan gaal jecel bal doogla ayaga iska leh ilaa hiiraan is haystaa xagga koonfurna waa is haystaa gaal jecel oo kismaya baadiyada wuxuu ka degaa 17 tuulo oo haddii loo baahdo aan tirin karaa diyaana aan soo sheegi karo ay kismaya geesaheeda dhan beexaan hadhihin janaa cabdalla hadhihin canjal hadhihin cabdalla dhoora hadhihin buurgaaba rees kamboni ayaga degan hataa kudha baajunta marka laga saaro baajunta iyadoo koyta imaata malay dabato ay Mombasa iyo xeebaha Kenya way degan qabiilkan qabiil oo waxa waa adoomay iyo carab iyo isku jarjar ah waa labadaas leesba ka koobiyaha baajunku lagu sheegay Kenyan qumanda ma aha dad Cumaaniin oo Saciid Barqash faraciisi ah iyo dad yar oo jareer ah ku jiro oo carabtaas iska sheegin jira xabash carbeed waxaas way Kismaayo ka bilow ilaa ay Mombasa degan yihiin oo 1500 kilomitir xeebta lay degan hal neef eri lama qabaan ayaga eri ma dhaqdaan malay dabato bad ku nool waa cidaas marka gaal jecla iska leh buur gaabo kudha ilaa Kismaayo laga imaado ilaa Istanbul tuulo la jirta xeebahaas dhan gaal jecelka dega oo caanuhu u geeya baajunta marka tuulooyinkaas oo asna caleenta iyo sokortu ka gataa xoolo laqato gaal jecel baadiyo ka buuxa hayo hormala ku soo haray eelborkan Kismaayo ilaa buula xaaji ilaa cusbo ilaa Cabdalla Biroole tuulooyinkan orax u dhac Kismaayo wixii ka jira taas jooga hadana haye sheeqala ku soo hartay orax ka soo bixi ka soo xigta Kismaayo orax ka soo bax cali moogi dhashay go'aam iyo magaalada geeskaana ka soo degan hawiye kale loo ku jirjira silciska hadaan ku sheegay afarta xabba ka joogto maxamed gargaarta halftiis ma dhawaanka waa jooga Kismaayo waa ka buuxi jiraan wiilgooda wax daaroday aga horeeyaan hata ayaga laftigooda wardeey asaas oo kale buuxda dhulkaas oo ilaahay ku abuuro ilaa afmadow laga soo kiciyo oo madaxweyne dir ah oo irir ah oo dhulka laga xoogo oo loo leeyo geelay oo la yaqaano haddana Garaseni iyo Kenya lagu shubay wardeey dhulkeeda waa laga xoogo qabiilkaas wuxuu la dhashay qabiil jiidal oo Kurtuwaari isab la degan shabeellaha hoose degan iyo asiga iyo kuwa kale Itoobiya degan oo Oromo ku hadla asle waana niman dir ah marka horta insaas loo ogaado shabeellaha hoosana raxweyn waxba kuma leh marka aniga markaan qiyaasay arrintan waxa waaye waa ii cadaatay daaroodii raxweyn waxay ku soo heshiiyeen in raxweyn shabeellaha hoose adiga dhac aniga jubbooyinkan dhacawa marka dib waa nagu dhacay federaal ma aha waxa meeshan ka jiro federaal hadii la rabo kii 60ka hal isku la noqdo SNK horta daarood ma yeelay haday diidaan tabcan meeshan waa lagu kala soconaa wax dawladda ma jirto nin walba hawiye indhaha fur dhigaha fur ma fahamta meeshan daaroodka dhulkaagu rabaa runan ku sheega haduu qabiil walba hawiye waa ina ogaataa hadaa adil lagu dhicin walaalka lagu maqan yahay Allah haysta koonfur la isku haysta dhul badan Allah haysta bu'aala laftigeeda oo jubbada dhexe caasimadiisa ajuuraan baa iska leh jambeelaha hawiye diyaano insaas loo ogaado bu'aala in yaroo makana shabeellaha la joojoogi jiray kadibna dabaraha soo degay dabaraha geesuu ka degnaan jiray xaafad halgan la dhaho dabar diinsoor ilaa bu'aala u saysta asliftiis 180 kilomitir intaas ku dhex jira dooya dhulkaas laakiin bu'aale garas dheere iridiidi nawaaxiga tuulooyinka dhow niman waaqli iyo waala magal laha ajuuraana degan waana jambeelaha hawiye boqortooyadii hawiye war indhaha la furo bu'aalada maanta asaas ahda ogaadeena dega culyahan wax la dhaho Kismaayana maxamed suur wax la laha waaba isqeybiyeen iyadoo hawiyo nool asoo nool ay qaybsanaayeen nimanka war waa in saas loo ogaado webi jubbana waa dhacna dhulkaas oo dhan dhulkayna waa in dhulka la isku xiro oo dadka la iska buriyo Kenyana lala macaamilo haday diidaata dagaal gaadmaha dhulkaas ka bilaabana jubbooyinka oo wadooyinka loo gala Kenya hadii baawur laga gubo la dagaalamo ayaga dan u bixi doona kukuyo waa la soo qalday dadaana wataa dadaana ku danaysanahay dhul hawiya lagu dhacay daarood tabar ma hayo maanta nafla caari waa laakiin waxay iska dhaadhiciyeen inay Kenyan ku haystaan jubbooyinka baydhaban waa kaas hadda raxweynaha hadda lagu soo diray shabeellaha hoose qorta loo geliyo raxweyn waa ina horta lala hadlo runta loo sheego dhulka marka hore banaadir u ahaylaan xamra laga xukumay iska iloow aan leeyahay hadda maqlaayaan war meeshaas leysaan iyo hadami iyo yantaar iyo madegno qubeer iyo madegno boqol hore iyo ma fahanti diisow iyo ma jiree warnimay hoo dhulkiina baay iyo bakoolad leedihiin ilaa iyo gadaa leedihiin mareexana idinka soo xooga gadadiina cishta boqortooyadii mirfle boqorkii raxweyn 98 aan fadhin jiray magaalada luuq la dhaha maanta magaalo mareexan waxa macquul miya inaad ka soo hortiin dhulkiina dhul waxba ku lahayn inaad soo aadiin ilaa jubbada dhexe degantiin degmada Saako bu'aala laga xukumaa degmo weyn waa kaligeedaba 12 tuula hoos ma tar raxweyn iskale macallin weyne iyo geladda meel kale ma jiraan dhulkaas jira ilaysan qaarkad xagga waa degtaata baydhawan iyada iskale ilaysanta laakiin jubbooyinkana waa jirtaa war dhulkiina cishta dhul baad leedihiin dhulkiina ku dagaalama jubbooyinkaas waxbaad ku leedihiin gadana waa leedihiin soo cishta shabeellaha hoose afka la idin soo saaray
oo la idin soo qalday oo moogta xeendaab la idinka dhigaya idinka oo moogta iskari jiifa ahaan as idinka dhigta daaroodka politika u isticmaalaya siyaasad waa waxaan war dhulkan waxba kuma lehdin dhulkan dad baa degan oo ilaahay ku abuuray oo irir samaala la dhaho weligeeda degnaan jiray garrana digil ma noqonaya digil wax lahan qabiilba ma aha garre waxa waa garre gardheero samaala u aqaana aniga kenyaan la joogi jiray ethoobiyan waa ku aqaan boqolkii 70 maqay boqolkii 30 waa kan Soomaaliya joogaba hadda oo torotoro iyo toriyole iyo xogaha degan marka horta xaqiiqdu waa in la ogaadaa in la iska galaafsado ma runta in loo soo sheegaa fiican dadka runta loo sheegaa war garre kan Kenya joogay ka Ethiopia joogay digil ma ka saayaan mana rabaan irir Soomaaliya hay afkooda inagu dhahan hadartin intiina ay maqlaysaa wareesta waca garreyaasha hal la hadlo ogaasidooda aad wici kartiin hata xaqiiqdaad ogaan kartiin been lug hal lug ay leedahay bal lugta ka qabtaa been sheegay war garre ma aha waxan jiidna ma aha marka waxa way dhulkan irira iska leh biimaal waa la yaqaana biimaal maxamed xanaftira allah mahadir waa la yaqaana irir Soomaaliya waa awiyo la shakan dad la isku diri kara ma jira waafo tug way waafo mooriyaan way ana cadeynay ismiin waa bahal habirgira la jifado ka dhashay bahal habirgira la ismiinka jifada ugu badan way ilaa waa la soo dirsaday daarooda lacag siiyeen fidna la wadaa raxweena ku jirta meesha waafo hadda samaqla waxa leeyahay war dadkan islaho irirka aad isku diraysa dibka jooji dhulkan weligiis ba xamar laga xukumay banaadir u ahay biimaan lagu xiisa anaga ma rabno waa isleenaha walaalaanahay shalamaanta markii jubbooyinka oo morgan uu xasuuqay jamaamay dhulkaas uu gubay tuulooyinka ninkii dagaalamay oo biimaal u hiiliyo oo daarood ka celiyo ciidid way nin habar gireeyo oo hawiya oo irir Soomaaliya war waa ina taariikhda horta dib u raacda waafo dadka aad isaga soo duulduulayso lagu dirdiray dhulka weligood kula degnaan dhulkoodii waa hatta gadaal hada u raacna boqortooyada silcisa la han jirta dhulkan ma runta in la soo sheegaa fiican inaan been wax ay tahay malaha silciska ilaa ay baraawo ka talin jiray ilaa ay xamar inta ka dhaxayso ay aan ognahay macallin kabtoole iyo sixir iyo balaaya la suubiyi biimaal waxay suubiyeen waa ognahay oo ay ku soo galeen dhulkan haddana ma aga xuminba dhulka sixir inay baraawo iyo markay kulli nooga qaateen maanta waxba kama qabno laakiin nabad ha lagu wada noolaado ani saasaan dhihi lahaa irir Soomaaliya waa biimaal aniga waxba uma qabno walaalkeen waa hawiyo la dhashay nin dir ah waa dirna hawiyo la dhashay waxba la suma qabeen niman yahow jooga waafow inta taageersanow biimaal laho biimaal iyo hawiyo waa isku mid wax la kala guramaha cidan cidoo waay isku abtir waay dhigooda hal waay hilibkooda hal waay war nimankaas waafow laha mooryaankan hal iska qabto oo ciidahan daaroodka lacagta siinaa tuuga ah hal iska celiyo oo ummadda isku diray walaalaha ah dhulka waana deeqa nabad aan ku wada joogna ilaa jubbooyinka iyo waana la karbaashay aan soo ceshana dhul kale weyn aan naga maqanay baydhabo waxba kama jira biimaale biimaal hawiyo nool in baydhabo la hoosgeeyo qalad dhacay waa qaladkan in la saxo u baahan yahay qalad hadduu dhaco qalad weligiis u dhici jirdiyaan waa la saxaa jubbooyinka ilaa ay shabeellaha hoose banaadir Soomaaliya waa cadeena dhulkan banaadir laana la dhihi jiray jubbooyinkaasna waa in la soo celiyo waayo waxa ku ogaanaysa fiir jubbooyinka inay deegaanka Kismaayo inta u dhowna hal tuulo ilahi ma laha waa afmadow ugu sokaysaa oo magaca daarood hadda ay ku isman yihiin waliba niman ogaadeen la dhaho 130 ay noo jirtaa ya ciyaalka soo xarooday adag intoo gabagabeena waa ka baxa diyaano 130 afmadow 130 ay Kismaayo u jirtaa waa magaalada ugu sokayso oo ciidaha ay leeyihiinba ogaadeen la dhahay maxamed suwar waliba jifal lahawa ay tu kulbiyo la dhahay jirtaa 180 ay u jirtaa iyada magaalada 190 ma xuduudda Kenya u muuqata taas qarqarka xuduudkii ku taala marka horta in wax saas loo ogaado la saxagta ma aha waxa waa la gardareeyahay gardartii ugu xumaada nagu dhacday karbaasha nagu dhacay dhibaata nagu dhacday waa ina isku tashano dhul iyo dad baa maqanay in la soo celiyo waa in lagu dadaala hatta sheekasha xagga joogta fiir loo bogaha Kismaayo geesiyeeda buuxa niman loo bogo la dhaho oo caagana iyo buubal caagana iyo sacad caagana la dhahay dhulka ka buuxo ayo qutub niman la dhaho hoosingo way degay xuduudda u muuqdan hormalihi laftigiisa dhulkaas ka buuxo oo macaaniye leh hore Ismaaciil leh hormale waa laba maamulkan oo koonfur galbeed la dhahay oo nawaad jooga diinsoor iyo baare inta u dhaxaysa oo gobolka Baayo dega raax oo hormala la dhahay iyo carmo iyo magaalooyin far badan hadda aan saas uma kala garanay ilaa labadaas waa arka hadda aan ka hor anoo gaari karisbooyka marka horta in saas loo ogaado waa baydhaban gobolka Baayo waa jira hormala jubbada hoose uu degaa marka waa in saas loo ogaado gaal jecelna jubbada hoose ilaa hiiraan uu degaa hiiraan wixii ka xageeyay ma jiro galgaduud laga ma helo marka horta in saas loo ogaado waa in la isbaado la isdhaco ma aha mareexaan waxa waaye waxay ka dhaadhiciyeen maanta galgaduuda afarta xab laga joogta cabud waa geedana gobolkaas bad ma lahane ogaadeen inta ka dhacsan inta farmaajo joogo waxay ogaadeen kan ula dagaalamay Axmedow okay halo lagu hayaa waa ku maqlayaa
diana waa soo gabagabayna adaa kugu soo gabagabayna ku salaamaya inaan ka ها baxayo waa dhamaysanaa marka waa dhamaysanaa war dhibka jiro farmaajo odayaasha mareexan iyo ogaaska mareexan hoosta ka galeen away maalin waxaa la dhahaa gacanta kismaayo noo geli inta yaroo aad joogtid waaba lalmataay hal lugaad ku taagantahay waaba sii socotaay war kismaayo nimanka oo liftan ogaadeenkan dhagax bur iyo jigjiga ka imaada ka buri ogaadeen wixii Kenya ula ciloobay jaadkooda waa joojiya isu leeyahay taa or anaga dan nooma hayo ninkan dan uu wataa waxa waaye waxaan waxa siyaasada socoto ninkaas laftiisa nin oo hadda qabiilkiisa taageersan oo u dagaalamahayo waaye intii uu joogo wuxuu rabaa barahiiraale iyo inuu kismaayo ku celiyo oo geli iyo abad kuwa ka imaada mooryaanka kismaayo la dejiyo wuxuu rabaa bal wuxuu isleeyahay waa socotaay bal mareexanka codsigooda u yal odayaashaada waa kaasa mugo farmaajo dantiisa saas waa in la fahmo marka ogaadeenkii asigana dadkan horta walaalo waa daarooda isliin haddana meesha la isku arkay waxa waaye dhulkan cidlada ha la isku haystaa oo barwaaqada ah webiga leh oo badda leh oo khayraadka leh oo dad cidna uma maqno gaal jacli ormale ilaahay oo maqan meelaha dhulkaas degan oo dhan irirka andhaha ajuraan leh maxamed gargaarto leh sheeqan leh dhulkaas silcis leh surro leh biimaan leh warday leh waxa dhan goday ku dhaceen Soomaali bantu wallahi mushunguli iyo shambare iyo waxaas ma hata waa jogan iyo ooji iyo baajuum iyo waxa dhan goday waxa la rabaa in la laqo ay fiican meesha cadaalad kama jirto wax dawlad lahana kama jirto ninka ogaadeen waa imaaday Puntland waa ku taageeraysaa dhulka inay degaan oo dekedan ay qabsadaan oo ciidahan qorsagaar lagu haysto waxay iska dhaadhiciyeen hawiye xamar oo jooga waxba yahow waaye ma fahantay maskax ma hayaan ma fahantay wallahi been kuma sheediyana hadda daaradaas iska dhaadhiciyeen waxay iska dhaadhiciyeen hawiye wuxuu leeyahay waxa soo leeyahay kala kasay marka si darteed marka dhulkiisa waa dhici karnaa canshuurtiisna waa cuni karnaa marka adiga dhibaato nagu dhacday waa in siyaasi inaan helno in la isdaba galo oo waxay qalad dhacay dhan la saxa loo baahan yahay federaal horta ay don't care hal dhah federaal aan wax naga magalin federaal uma naqaan waxaane waxa hal booli way hal boolina anaga ma rabnaa wixii la suubiyay 2013 hal bacad lagu lisay way hal la dhaho ma ogolin ma qaadanayno mana yeelayno nin walba hawiye ama irir ah waa inuu ka dhiidhiyo arrinta dulmiga hal la diido kadib federaalkii hore haday diidaan waa lagu kala soconaa dhulkayna wallahi naga filan labada webi fiir webigaas bu'aale ilaa iyo meesha goobeen loo badda ka gala waa dhul ilaa 200 kilomitir jubbo webi jubbo hawiyaha ayay ka degan irirka haye webi shabeellana waad aragtay dhinacan hiiraan oo soo dhaxmara shabeellaha dhexe shabeellaha hoose waad aragtay meel jilib u dhow baaleel dhaw ku dhamaada ase farafaro noqdaa bad ma aada kan webi shabeellaha marka kaasa ka weyn oo badda ku darahay marka labadan webi dhul isku filan oo isku fiican oo Soomaaliya ugu fiican waa Soomaaliya ilaahay waa na dejiyay iska xalin iska celin oo labadan webi ilaa gaalkacay ilaa Kemboni aan ka celino ciidahan daaroodka wallahi billahi tallahi markaas kadibna alla xisaabtana Soomaalilma u soo jeesano haddii markaas diidaan waa lagu kala soconaa waxa waaye hiiraan wadan la ego hadda Djibouti la dhaho wallahi nabada lagu nooleeyay barwaaqo khilaaf ma jiro dawlad waa ka cafaraga dhinacii ka joogta tajooro iyo obaq meel lahay ka degan hadduu ilaahay ku reeyaa inta dhulkii intiisa kalena ciisaha degan oo madow dir lahaa niman ciise dir waay irir Soomaaliya laftigood ehelana marka dhibaatana kama jirto dalkaas marka anagoo gaalkacay ilaa ay Kemboni degan dhul 1600 kilomitir aan ku qiyaasay degan warwa maskaxa loo baahaya man Soomaaliya kala socota taa daaroodii aga daba xun abartoodii ku wasaan wallahi billahi tallahi Puntland kan joogna webi ma qabo dhul fiican ma laha dhagax waay luubaanta xun oo ay dhoofiyaan iyo afarto hayb area ay qabaan ma garan dhulkooda la hata kuma noolaan karta ma garan war waxa waaye annagaaba ilaahay barwaaqo u nasiiyay laakiin maskaxa loo baahan yahay ana idin sheegay aniga go'aankan waxaaba istahay cid ku haysata mal adaas hastaawiyo adiga iska qaad heeriyada faan waa run diana fiir hadda xabsiga dad lagu la sheegay shalay maraan dhageysta taa hadlaysa maqlay boqolaa dhimatay lahayd war farmaajo dilahaya wana dabargoona nagu socota dhiigayna qobanahaya waxa waaye xabsiga laftiisa qoriyaa lagu geliyay shabaabka meesha ku jiray waxa waaye iskartan hawiye hadil dilaan waaye shabaab inay naxeen waa la ogyahay karfantay madaxa ku wataan ninka shabaabka ee waxa oo kala ka dhaadhacsan moogtahay janna galaysa iyo balaayo kala lagu soo qufulay isla marka waxa waaye dad badan inay dildilaan oo qoriyaha meesha lagu dhex geliyay iskar barreexan inay gelisaan ba aaminsanahay aniga qoriyaha oo kas imaag ay tahay iskartan hawiyaha meesha joogta hiraabka hawiyaha lagu xasuuqay ka tahay waa cadaawad iyo siyaasad kale oo dagaal kale oo nagu socdo war niman yahow farmaajo intuu joogo wallahi dhiigaana ma joogsanayo isbedela loo baahan yahay magaalada xamarna inaan safeyno kuwan xunka oo iska qarxinayna iska celino horta kuwan daarooda ka daran kuwaas daarood horta hal iska celiyo kadibna kuwaas loo jeestaan dhihi lahaa aniga saasa aniga ila fiican diyaano waayo aayahayna
si mustaqbalka hawiye qadiyadii hawiye sharafkii hawiye karaamadii hawiye midnimada hawiye loo badbaadiyo farmaajo waa inaan iska celina marka hore nin walba hawiye ogow aayaha mustaqbalka ilmahaaga iyo dadkaaga iyo in adeertaada ilma adeertaada berri meel ku hooyanaan ma laha waayo la heesta haddaad sii noqoto laba isku daro 10 kale iyo 20 kalena waa sii joogaa kan hubka ka dhig waay marka hawiye shalay waa isdagaalnay dhaqaalaha ka dhig wax walba ka dhig marka dambe lugaha la idinka xiro gacmaha la idinka xiro yaa idinka fujinaya idin muslim idinka idin weydiinay nin daarode oo cadowgaaga oo shalay maanta ciidid waa soo dagaalamay waa soo jabhaday anaga ku caasinay kaadiisu u socod in loo daayo loogu faataxay ciidid hadda waaba dhacday ciidid waa dhintay maanta ismaacaata lagu diray cali mahdi lagu diray waa laga hor imaaday balaaya dhacday الله يرحم إلهه ونحرست قبر جيسنا الله هو واسعي مجاهد وهاي الناس أو هويه إذل مصلحة ضده كشقينا لك ولا جرمه هويه وحي كوحني إنك ضمن هذا كشقينا تميقني وحوا نين أيق قذنا ننفع عن أم الأيام بقول لعق قذنا يصير علي صلاة علي جل كان الله هاي علي جدي كقول العقل السي وحبيه هو اسك رخيص اسك عقليس اسكيري هاي وبري الميسي آية حد كيس عن كسين مستقبل كبري عن كفكرين مركز كلي فيرنا يشيلمات كلا سي وعنا وكقيلة كليو فيرنا ما أنت أقباشله ورا وحصل لك محله ماشان وحاول مال وين أنا كفكرته هذا سياسة هاي وأنا كفكرته أمضنا متشا مركز دبتات تحت على قاعد هذا مدحوني الرئيس الوزراء اسكاب الدابة حلبان اللي مركزها برلمان تكون متشت من مسؤولته قبل أنا كفير سنة هاي إن سقط جان نمئيو سقط دل نمئيو حيوان نمأ ماشي اللي ما تماه وأنا قبل كأكون متشا عايه هذا كشقيسة وحي أيق الضمط هذا ماشي كويسنا ولد اللي جيه هذا بقى كنت هنا ما برا بعد هذا يستقتل را ما لفظهم بيش أكون قط الدولة دس كاجا بهدي هذه موقتها عدو اللي جيه هذا بقى اللي جيه سيد هذا إساق في رحمة جو سومالي ما لقى حد ذكر وارت إن يانيور عملوا وكو حاجنا يعديها تاخد دجالمان ورما هاي دي إنك هاي دي أنت على أبنها وأنا كمان عنشورتنا اللي عناها دول كان يلا هيستا ما هره مركان كده منا لقب صدها هذا أقول لك جمعها أنا لقى حر حنيها رايها أنا لقى بحيه وأنا نود ما تدا هذه الشيء دار مر حدث أوقف لنا وأنا بجوك سنة مرت ما قعد بهوينا ما لا مقلا والله بالله تالله ما أنت لك وليه هو بيسمى هو دقارة هاي السنة أسك برنا توق حنك الكيرك أفقش كه يا كاس وقتي ولا وقتي سبك ولا ما ذو بحاي لكن هوي أساس عريامي ما شو تاج أساس تاجي مركب دكاك أنا سوي مدي لا وتشتاو تكتشتي أنا وأنا ديانا وارنتا ديانا فرماجو هرت موقتها والد دورتي اللي ديبو أنا ما بقى لفعن أنا هذا فير إنك إجوري حسن شيخ حفظ الله إلهي حفظي إلهي عمر حفظ الله سي كل أسيق الصومالي نمو وشقينا وتنزله لك دارود وحلو التنزل ما دارود نك قنينه نك أصلا نن ويقانين كي التنزل من دقني ويقانين أنا هذا كل شيء نك التنزل جب كيس لح قدرسيه والله دارود الضبالي وأركان waxaan carabkan ku dhufanaynaa runtan ka hadla daarood waxa Soomaaliya ka socon weysa ayaga waa qaran dumiska ayaga waa canshuur nama dhiibaan Kenya iyo Ethiopia ay wataan jawaasiis tuuga la kari waay oo cadow nagu eewa war waxa Soomaaliya lahayn ma jirtee haday diidaan wallahi waa lagu kala tago iska celina dadkan nabad la tuuga nabad ma noqoto tuuga dhashay waay oo siyaad baran ayagu aha sharciga waa diiday military iyo xoog iyo foodaba ninka soo bilaabo ah شرعكم يجون كل لا تنسى الشرع درك جوجا لا هو نحرست ما أنت أنا ما هيست بابسيات أنا ما هيست إله هو نحرست قبل الله واسع لكن كل لا تنسى الدورة تعنجرين أي سكوت جوجا دلك فرماجنا تيورا سيدي عذير كيس الصوماليين ومن ريوك وجروا سياد حلو قبسنا 1969 لحدنا السجال إيمان تواكلتها ما أنت ضدك بحلوة كل ولا هو بيسين المها قرقي يراته وكل شيء باب الشيوة من اللحلة ديروا ولا مكاربين ورا قبل ما هو بيسين من واحد لقى هذا مجرى فرماجو ماشي سكتك وبالله التوفيق مركز السلام عليكم ديانا والسلام بسم الله هوي اساس كرفدي عيدها ست مال اساس كدغن واسوق مقبينا برنامجك بس نانغت هاو رموتك يا ninkaas daaradna xumo maayo wiil xumo maayo doorashada waxay u diideen lagu darsado dagaal soo keenayay maanta doonayaan shacab daruuf haysan oo hodalan oo la diilo dandaradu haysato oo dul qarsoon kordaagay
daryeliyadaha waisbihi taala dowladeelin iskuuladu ahaa dukaan deeq wax laguma baaro daryadii laga xirto oo ruuxu dowda jirin dowladu wareedayeysaamiga dayaacan inaadan maxaa sheegay xaquuq malo aa meesha laga xina haa war doqonka farmaajo dalka hawaay doqonka farmaajo dalka waa in laga qabtaa aawkii codka xiraya ku soco waa soo waa dami rabaa inaan damiyaa rabaa nimantan habiye dhibaatada in badan ayataa isu teedale ma teediyeen ceedin ma teediyeen wax taladooda mate sadaada tabeele afweene u tacanteliyeen dhibaato badana isu teedsane nafsidii hayeeyadena aanu cadowgana u tacantelina baana haatato ilaa maanta waa agteeda ceediid niman habiyo ayaa tiyeen dhibaato naxaarsadooda sadibele farmaajo uu afweyne adeega u dhahayaa teentane maxay saareyno dembi iyo dhibaato dembiyooda intaabtita maanta marena wiilkaan allah ay soo gabagabeen maxaa qaaqay السلام عليكم anada isuteedane ceediid meetadine waa aragta ceediidka wax badan noo tacde ciyaalkaan ay waalo marba laba isqabsanayso oo ku salaamaya codkaaga waa dhiibatay kulligiin waxaad leeyahay idin macaanaato cid kale aniga dood uma haysto cid kale dacwo uma qabo hawiya dacwo u qabaa aniga waa fiifaan le ummadda kale ninkii dhulkiisa iyo dadkiisa ka warqabo hawiya waxaan leeyahay dhaka kala keen dhulkan la haysto waa dhulkaagii dhulka noo soo xoreey dowladdaana dee hawiya daarooday u taalla iyo soomaaliya dir iyo isaaqay u taallaa iyo digil iyo mirifle meesha ka galaana ka gelaynaa hadday dowladnimada ay diyaar u yihiinna diyaar una haddaysan u ahayna dee maalin soomaali isku imaata allahna gaarsiiyo dadka ku doodaya qof iyo codne dee bakaaro ma tegi kartiin qof iyo cod maxaa ku dooday xildhibaano xildhibaanka ninka xildhibaanka qof iyo cod leh degmada hal degmo oo soomaaliya kamid oo muqdisho kamid ma tegi karo kaara amisom oo ku hoos jira ma fahamtay kaaraha amisom ma ka hoos bixi karo ma tegi karo degmada usoo horeysa marka waxaad leeyahay annaga waxbaa noo sheegnina ya ummadda islaameed waxaa leeyahay ani cid kaleeto oo maanta aan dhihi karo cid kale aan dood u haysto maale dadkayga aan dood u haystaa xildhibaanada geesiyadda ee maanta sa aragta u hadlayso waa naag carab saalax runta sheegta habriya caloolaha waaweynaayo hawiyo naga deminayaa waxa ay noo qabanayeen ma leh hawiye hadlaayo maaragtay may gabar puntland ka timid aa runta sheegaysa oo ka naxday oo la qaweysay
مساكين هوايدا مساكينتا oo saliida beegaysa irsaaqada laga soo qaado oo cunto ma weyse inay cunto waxay istiri xaaraanta cunaysa ka hadal istiri tii hawiyana ma ka hadlayso fahamta marka meeshaan hawiye meeshuu taagan hawiyaa dhigay hawiye wixii ku dhaco hawiyaa ku dhigay maxaa kale la sheegaya finti kulli finti inti geel waa hawiye kulli finti inti geel ma dhihi jira waa hawiye allaha tuso dantiisa hawiye dantiisa allaha tuso dadkan kale bilaasha loo xaganaa laba shabaab maanta wada shaqeeya shabaab asaga iska qabto dawladana maandheeday leedahay maandheedkeeda markuu dhamaadana dawlad kale waa lagu dhawaaqayaa waa la shaki nin walba asaa dawlad isku ah markaas haddii uu maxamed farmaajo dalka doorasho geli waayo 7 February ciduu dawladu yahay asaa sheegaya gurigiisa uu dawladu yahay faad ciyaalkiisa dawladu cid kale dawladu yahay male waxaan leeyahay dhammaantiin aad u mahadsantihiin asxaabta intii dhageysatay intii daawatay inta ka xumaatay inta ku faraxsan kulligii waa idin salaamaya waxaan leeyahay soomaalinimo maanta soomaalinimo ma taalo ee hawiyennimaha laga shaqeeyo soomaali ma leh soomaali waa kala tagtay سكري شال وحول حسن شيقة وحب دك حلك ما أنت الحولة فرماجة وهديجن أو سمع لمد مركز سوقين مجرد لين رنت وشيء أنت صاحل رنت وشيء أنا مجرد أنا أدرك سدايا وأدخلتن تاي شال حسن شيقة على الوقت جاي مركز ما هذا دك ما أنت الحالة ذا أنا أدرك فرماجة حلك هديجن ما فهم مركز على إلهي مارت إلهي سور ربها كديجو لكن تتكلم دولد maxay ku gaarayaan dadkan waa dilan yihiin dadkan aan ka soo jeedo hooyada cajuusa maha fi rooble dhiladii ku dhashay cajuusa hooyada was wala ku balooga dinta hooyada ayaan ka sheegay wala qaado macala hooyada ku yaa عواي مركا رونتا رونا لا شيء ماهينة رتيدا ميركا رات قرحون شكي ملايين إلا بشباب ولا شقي يعني أكسوك بكبير السلام عليكم